الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة عموما تاريخ marka laga warramayo faa'iidada koowaad ee taariikhdu leedahay waxa weeyaan waa lilcibra waa in lagu waayo arko sida awgeed baynu odhan karnaa qur'aanka kariimka ah in thuluthba ku dhodhow ama saddex meelood oo meel ku dhodhow ayaa qisas ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qiso kaga warramaya نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون sida daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala dhul badan ayuu qur'aanka kaga warramayaa qisada qur'aankuna asbaabo badan bay u soo aroortaa waxaase ugu muhiimsanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur'aanka ku tilmaamayaa qisaska in laynoogu sheegayo inaynu ku tafakurno ama ku waaya aragno inaynu ka qaadanno cibar inay noqoto wax lagu waaya arko cibratun liuli lalbaab lacallahum yatafakkaruun markaynu u fiirsanno markaa qisadu sideedaba waxa ugu quruxda badan lee ku jira waxa weeyaan in lagu qiyaasto wakhtiga aad nooshay iyo duruufta aad ku nooshay adigoo ka qiyaas qaadanaya umamkii hore iyo wixii ku dhacay noocan adigu aad u nooshay wixii la mid ah waayo basharku sunna ilaahay u dejiyey subxaanahu wa tacaala joogto ah sunnadaasi waa sunna haabita bay culammadu ku tilmaamaan haddaad samaysana inaad sama helayso haddaad xumo samaysana inaad xumo helayso maadaama ay caynkaasi tahay qisasku waxay u baahan yihiin in badan inaynu u fiirsanno qur'aankana in badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramay qiso nebi qiso fircown iyo gaal qiso wadaadda inxiraafay qiso yacnii kullu shay baab kastoo aad qiso ka egto qur-aanku wuu ka warramayaa taasi waxa ay tilmaamaysaa inaynu u baahannay qiso dhammaanteedba innagoo laakiin isdu taagayna mawaadic alcibar meelaha cibradu ku jirto ee u baahan in inta badan la eego amase la isdul taago waxaa kaloo mudan oo qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan inoogu tilmaamaya inaynu umamkii inaga horreeyey taariikhdooda daraasayno waxay idhahdaan casri kastoo la joogaa wuxuu u badan yahay cusurta dambe waa طabca jadiida likitaabin qadiim bay idhahdaan haddaad taarikhda haddii u fiirsato baalan la mida kanaad nooshahay unbaad arkaysaa oo si kastoo aad u qiyaasto ama aad u qiimayso la mida idan bay idhahdaan waa طabca jadiida kitaab qadiimoo hore loo soo maray waayo dunida hore u soo mareen dad taalixiina iyo dad saalixiina dad xunxun dad wanaagsan nooc kasta hore u soo mareen sidaa awgeed waxay u muuqanaysaa taariikhduba inay u eg tahay طabca kitaab qadiimoo hore u jiray ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ina leeyahay qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lardi fanduruu ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala idinka hortiin waxaa tegey sunan baa dhulka tegey ee fasiiruu fi lard dhulka socda baa la yidhi oo fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin fasiiruu fi lardi qur-aanka intay ku soo aroortay haddaad u fiirsato aad baad u tacajubaysaa aayaad aad u tiro badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramaya qul siiruu fi lardi uma anduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يعني إلهي سبحانه وتعالى هدينا النصوص تكسو أررتي فسيروا في الأرض يقرأ أيا كبضا إن محاضرة لغو أخريه وإلهي ونالي هي قولدي دين كهر ريسيبا قار ألا هلاقي وللكافرين أمثالها سيدا أوجد تاريخ الدراسة وباهنتي دراسة أن تمتع هين بوباهنتي دراسة أن كرا حيث قرا هين إن لسدول تاقم مالها عبرة وين لبوباهنتي أممكو حتى دتك أميينتي حتى أممك أن وحقورين انت بدن إيكوا وحقورين بدن وكم دبا على مدى جراي تاريخ تكو علامة صدان مثلا وحا ما هذا الله يراهدا ودعضي قصة دعضي oo weer yaro kooban lagu xifdiyay oo markastoo dhacda la mid ay timaadaba mahmaahda la sheegay waxa la yiraahdaa ninkan hebel waa aftahannimadu waa maxay wadciga hadda yaala ayuu wuxuu ka qiyaas qaadanayaa dhacdo hore oo dhacday oo ku jaan go'an sida daraadeed ba mahmaahda gabigeeduba waa calaamad taariikhda la calaamadiyay waa dhacdo kamid ah dhacdooyinkii taariikhda oo la calaamadiyay gabayga la mid ah gabayada inta badan taariikhda waa lagu calaamadsadaa oo dhacdooyin dhacay oo taariikhiya ayaa gabay yaro koobani uu tilmaama qisaad u tiro badan leh walidaalka waxaynu u baahanahay sideedaba qiso dhammaanteed inaynu aad ugu noqono taariikh gaal taariikh muslim mid walba waa ilaahay quraanka mid gaal iyo mid muslim oo kaga waramay مواضع العبر كان نسدح تاجنو أما يسك تاجنو درس كان ما أنت اللي قندينا وحلا يدينا كورمه تاريخ أندلس تاريخ ده تصير ساعد يبرنا عنه شجعنا قرن مايا أندلس دولة الأموية لبي سجاشن كي هجرية ده أيالا فرطي طارق بن زياد يا موسى بن نصير قائد كان لورين شري طارق بن زياد ودري لبي سجاشن كي بيلعبين فرشدي أندلس يوجه الرئيسي أندلس ووطن كيرا إيبيريا لورين شري أما وجزيرة ما أنت عنكا إسبانيا البرتغال أيو بدنيهين غرناطة وآخر مملكة إسلامية غرناطة مقالة هذا الله يرهدا مملكة دي قدام بشيء إسلامي هذا يكبح هذا سداد بقول تضبي سجاشن كي محرم كودي دي بالله صار آخر الملوك أبو عبد الله نكى هو يدي قبل جو تري رسائل هايد بغرطويات سيد الرجع إلى لين ويدي سيد الدمر كوجو قبل أبو يترينيس يبكي مثل النساء قبل وكشرو وأي تلمام السعادات سيد الرجع إلى شنكر ويدي سيد الدمر كوجو وحليني مركي وجودن بيسوي كدقائق معاهدة أيوك قبحي معاهدة مركي لك على الساحة ودونيه فولو يسأكتها قدبوا قصرية دي سي وحيسي مركاسائل مكسود ده ديبال ليلي هو يدي با مركا ويرد تنكتري وتاريخ مركا سداد بقول يشان سنضات ككوبا سداد كدقيقين ليسي هدانو قيبيو طبعا كي سنضات بحال دقيقانو هيا طبعا كي سنة تاريخ ده كم مدابا هل دقيقة يكسو بيقمية مركا وادكتي تاريخ أندلس إن كجور رنّه سدات دقيقة يوحلا ميدا عموما أندلس لبيه سجاشن كي لقى بلابه إلا بقول يو سداد يصدم كي هجرية ده وحي هوس إيماني سي الخلافة الأموية مركي خلافة الأموية يدعدي الدولة العباسية يماشى قبصتي ويل دلني يرى أمويين تكمدا ayaa dilkii ka baxsaday walaaladii la dilay isagii baxsaday wuxuu socdaba wuxuu gaadhay wadankaasi Cabdiraxmaan Dakhil oo saqar Quraysh ninka loo bixiyay dawladdaasi isaga dib u asaastay isagoo qariiba buu wadanka tagay waxba haysanin laakiin dawlad buu muddo yar kaga dhistay dabeetana dawlad aad u ballaaran ayuu dhisay dhowr iyo 30 sano baan filayaa 34 sanadood ayuu xukumayay
wakhtigiisii intii badnayd thawraad bay kaga dhacday 25 thawradood ayaa ku kacday 34 sannadood ee uu maamulayay akhiiran 170 meelaha markay maraysay ayuu wadanku istiqraarkiisii sugmay madiinada caanka ee madiinada zahra la yiraahdo qurtuba ku taala ee taariikhda mudankii ugu caansanaa dunida ahaan jiray ugu quruxda badnaa ayuu waqtiga dhisay masjidu qurtuba oo masaajidka weyn abu bilaabay ilaa iyo markii dambe masjidu qurtuba sidii loo weyneynayay 1200 oo tiir buu markii dambe lahaa masaajidka tiirarkiisu bilariskiisu 1200 isagoo 1200 bale oo kiniisada ayuu haddana ka dhisay qurtuba wali masaajidkii waa dhisay laakiin hadda waa kiniisad taariikhdaasi dheer ee wadankaasi leeyay waa taariikh ma si tiro badan leh ama meelo madmadow oo aad u fool xun oo tiro badan leh meelo aad u qurux badan na leh waa taariikh markaasi runtii daraasadeedu ay tahay taariikhaha ugu fiican in la daraaseeyo waayo waa taariikh isbedbedelkeeduna badan yahay asbaabta keentay isbedbedelkana markiiba aad isha ku dhufanayso aan wax badan oo u fiirfiirsi badan kaaga baahnayn marka aan soo koobo haddii aan taariikhdan maraaxil u qaybino marxaladda hore waa marxaladaasi dhismaha koowaad ee ninkaasi dhisay kadib inaanu dhalay baa ka uga dambeeyey kadib inan kale u awowyaha uga dambeeyey qolada hore waa iska fiicnay laakiin waxaan jeclahay meesha u baahan inaynu si fiican u daraasayno inaan isu soo dultaago taariikhdani markay muddo socotay ayaa ninkii ugu dambeeyey wakhtiga aan rabo waxaan rabaa cahdigii muluku tawaa'if ay talinaysay cahdigii ugu fitna badnaa inaynu tagno ee taariikhdaasi ka mid ah waa cahdiga loo yaqaano muluku tawaa'if ama boqortooyooyinkii طائفaadka yaryar ee kala nooca ah muluku tawaa'if waxa ka horeeyay laba boqor oo aad u waaweyn waa cabdiraxmaan الناصر ama cabdiraxmaan الثالث taariikhda bani umayya saddex nin cabdiraxmaan la yiraahdo soo maray daakhilkii iyo cabdiraxmaan kii labaad ama thani iyo cabdiraxmaan الثالث nin lagu tilmaamo iyo saddex hishaamkii koowaad kii labaad kii saddexaad cabdiraxmaan الثالث أو cabdiraxmaan الناصر ninka loo yaqaano wuxuu xukumayay wadankaasi 50 sanadood 22 jir isagoo abu qabsaday waana mararkay ugu qurux badnayd buu wadankaasi gaarsiiyay nin karti leh oo la kacabsi leh oo dawlad xoogan dhistay oo thawraadkii iyo wixii ka soo horjeedo dhan ka takhalusay oo ballaadhiyay dawladda islaamka ee meesha dawlad aad u qurux badan leh buu ka tagay markaas cabdiraxmaan الناصر dawladdii quruxda badnayd ee uu ka tagay inankiisii baa dhaxlay la odhan jiray alxakam ibnu cabdiraxmaan الناصر alxakam waxaa nin caalima aqoon badan diin jecel alla ka cabsi badan dawlad deganna helay isna dhanka cilmigu isaga faafayba waa maktabadihii caalamka ugu waaweynaa ninkii samaystay 400 oo majalladood baa maktabadiisa ka koobnayd isagu nin caalima oo faqiiha buu ahaa muddo haystay laakiin qaltadii ugu weynayd buu galay bay yiraahdaan dawladdii aadka u ballaadhnayd ee meesha ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn inan yaroo uu dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadi culamada ugu da'weynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda kuwa ugu yareeyana 7 jir adigu nin 7 jir meelahaasiya daadiisu هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر نكي لو رجري هشام الثالث نكوي قانين أما المؤيد بالله لغة المامو هشام كامركي ماشى اللو ديبي هشام المير بوها ما دام المير اسكاها وصيبه سميا معد إلى لسه سجى سلانه هويا يلبان نوكله taariikhdaasi mar rabo bitafsiil inaan uga warramo wuxuu mar rabaa mawaadic aan u dan leenahay inaan gaadho waxaa isku qabsaday dawladdiiba nin la yidhaahdo moxamed ibnu abi caamir waa nin qabiil yamana asalkiisa uu ka soo jeedo alxaajib almansuur ninka la baxay weeyaan
xaajibku taariikhda hore waa ra'iisul wasaare oo kale ninka uu boqorka warka kala dira ayaa xaajib loo odhan jiray xaajibkaasi taariikhda islaamiga hore xaajibka laqab looma samayn jirin boqorkun baa laqab lahaan jiray المنصور بالله وحين مقالله المقتدر بالله القادر بالله مقعيداسي بقرada lahaan jiray laakiin xaajibka iyo wasaradu ma lahaan jirin nigani maadaama uu dawladii gacanta iskaga dhigay laqab uu samaystay al-Mansuur la yiraahdo isaga qabsaday dawladda dhamaanteed nimankii agtiisa soo marmarayayna uu ka takhalusay saddex nin baa la tilmaamay agtiisa ka dhawaa ma uu islaa waxbay ku qabsanayaan makiidooyin buu sameeyay bay yiraahdaan saddexdiiba uu ka takhalusay dawladii isaga qabsaday wiilkii yaraana wuxuu yidhi inay yar baa tahay cibaadayso boqorrada looma soo galo halkaa ku jir meel buu ku xidhay bay yidhahdeen inuu iska joogi jiray xataa markuu soo baxayo dumarkaa lagu dari jiray koox dumara inta la raaciyo farta la saaro barnaskan ay qaataan maxaa la yidhahdaa marookaanta iyo maqaaribta idinka arka koofiyaddan yara ku samaysan khamiiska rag iyo dumarba nooc ku samaysan bay qaataan nooca inta loo xidho baa la yidhaha barnaska la yidhaahdo ayuu xataa lagama dhex garan jirin bay yidhahdaan dumarkaa uu la socdo iyo kooxdaasi galbinaysa cidima arki jirin waa iska cibaadaysan jiray meeshiisaasu iska joogay ninkan la yidhaahdo alxaajib almansuur baa dawladda haystay laakiin nin aad u cajab badan buu ahaa dawladdii wuu sugay waxyaaba cajabana waa laga tilmaamaa 52 dagaal buu galay intabana wuu guulaystay culimada qaarna 54 bay sheegayaan لكن إمام الذهبي كنتن يلا بكدقيا كنتن يلا بدأ قال بقلاي كنتن يلا بدأ غزوة وقلاي بوسوق جولست إذا نوح كدقي ودن كي أندلس لورنشري إسلامي جاها ودن آن قلبهم قرينين أكتي سعيد الصومرين حق بدن إمام الذهبي وحكت المام يعني كاسه وكان موته آخر الصلاح وأول الفساد لأن أفعاله كانت حسنة في الحال فاسدة في المآل إمام الذهبي في سيري وحورانا يانيكا كان قيريدي سوحي هيدويد وناقا وحي وقدم بيي أعماشي سنة قيريدي سو وناقا وحي وقدم بيي بيهيد فساد كان وحي وقوه الرأيي afcaashiisuna buu yidhi waxay ahayd xasana fi lxaal marka wakhtigan la joogo camaladii uu samaynayay camalo aad u qurux badan laakiin cidhib xumo dambe oo badan ka tegey waayo ninkani wuxuu sameeyey khilaafo aanu khaliifku talina qolo kala taliso inaanu dhalay buu uga dhintay kiina halkii buu ka sii hayey 7 sannadood buu meelaha ku sii haystay laakiin nin saalixu isaguna ahaa dawladdii waxba kama xumaanin mid uu dhalay oo kale ayaa sii dhaxlay ka dambe uu dhalay nin fiican ma ahayn wuxuu ahaa nin marka hore hooyadii faranjiye tahay islaam faranjiyada dhashay islaamii waliba hadiyaadka boqorradu ay u siiyeen mid ka mid ah dhashay shangal baa la oran jiray waxaanu ahaa nin fasaad badan aad u fasaad badan ninkaas dawladdii qabsaday akhiiran dagaalo iyo burbur buu isna iskaga dhintay waxa soo baxay in lagu kaco dabeetana meeshii waxa qabsaday nin cusub oo umawiyiintii ka tirsan waxa la yidhi waayo shanjalkani wuxuu sameeyay khatarta kale waxay ahayd labadii hore waxay iyagu yidhaahdeen anagu xaajibaanne wilaayada umawiyiintii baa iskalo muayid billaahi baa qolka dambe ugu jiray war maxaa muayidkani qolka kaga jiri buu yidhi muayidkana waa ha iska tago aniga ah buu yidhi khilaafadii waliyul cahdi buu sheegtay markaa بعد المؤيد بالله إنه يسوي ولاية لا ولايتنا أي وريكتي الدولة الأموية أما قريشين تنوي ولاية ضدكم نوع ما هو يقدم بين لكن كان هو عامري يمنية مركا ما وقدم بين يان ضدكم سيدي لو قدم بين أول واحد يكون معمول يعني حاجبين أما هنا سلطة يعني رئيس الوزراء وكيهي نين محمد بن هشام بن عبد الجبار لا يراهدو أموي baa lagu kiciyay dabeetana ninkaas meeshii inqilaabay waa qabsaday waqtiga kan waa ahdi fitna bilaabantay waa qarnigii shanaad iyo bilowgiisii 400 taariikhda hijrigii markay maraysay weeyaan ninkani markuu meesha qabsaday
caamiriyiintii buu eriyey meeshii buu xoog ku qabsaday waa dawladdii buu isyidhi isku dabarido laakiin looma daynin ee waxaa bilaabmay wakhti fitnaa oo madaxnimadii la ysku laayo oo tiro badani dhacdo taariikhda 400 la joogo ilaa 422kii laga gaadhay waa 22 sannadood 22 sannadood 13 amiirulmu'miniin baa soo maray يعني waxaad qiyaasi kartaa markaa fitanka iyo mashaakilka taagnaa sida uu eegyahay 22 sano oo 13 amiirulmu'miniin oo kala nooc ay soo mareen waxa dhacay ninkii guriga ku xidhnaan jiray mid ay walaalayiin oo boqorkii weynaa al-Hakam caalimka inuu ku sheegaynay uu dhalay al-Hakam ibn Abd al-Nasir nimuu dhalay oo Sulaymaan la yiraahdo ayaa isku dayay inuu dawladdaasi inqilaabo laakiin wuxuu furay albaab cusub oo aan taariikhda Andalus lagu aqoonin albaabka maalintaasi furmay Andalus wuxuu ka mid yahay waxyaabihii keenay inay burburto markuu arkay ninkan madaxda iyo qolada dawladda haystay inaanu babacdhigi karin ayuu wuxuu qabtay dawladdii gaalada ee ugu dhaweyd qashtaala meel la yiraahdo qashtaala dawladdii weynayd ee muslimiinta Andalus markay qabtay bilaad sakhar buura yar yar oo la yiraahdo oo badan sare ee Spain ku yaala oo qura ayaa ka harsanaa waqti dabadeed dawladda ay iska weynaatay dabeetana gudaheeda iska dishay way kala gooday Lyon iyo qashtaala bay kala noqdeen qashtaalo waa castle oo af Carabigii markay qolada Carbeed akhriisay qashtaalo akhri waa qalca dawladda yar oo meesha joogta ayuu tagay wuxuu kula heshiiyay dawladdaasi yar inay saacidaan way ka saacidaan dawladdii Qurtuba ka talinaysa in la inqilaabo ay ku wada duulaan Alfonso in la yiraahdo dawladda tan nimankii haystay wuxuu arkay fursa saciida inay tahay awal dawlad yar oo jisiya bixiso ka dawladda weyn ee muslimka xukunta buu ahaa maantana waxa arkaya muslimkii oo islaynaya fursad buu arkay inay tahay waa ogolahay buu yiraan ku wada duulo waa la wada duulay dabeetana waxa laga qabsaday meeshii iyada ahayd ninkii la oran jiray Muhammad ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar al-Mahdi la baxay ayaa qashtaala iyo Sulaymaan ibn al-Hakam سليمان بن الحكم والله بحي المستعين بالله قلده تاريخه waxay yiraahdaan المستعين بالسليبيين boo ay مستعين بالله ina ma haynay inta qoladaas oo ka haystay ayaa lagu wada duulay dabeetana dawladii baa ninkii laga qabsaday waxay boqortooyadii dib ugu soo noqotay markaasi wiilashii uu dhalay الحكم ابن عبد الرحمن الناصر wiilashiisii mid kamida oo سليمان كان هشام كيبا ولا كي غورغا لغو خري جيري markuu meeshii qabsaday mahdigii jabay ayaa wuxuu la kulmay wiil la yiraahdo al-Fata waadix oo caamiriya caamiriyiintuna oo nimankii xaajibiinta meesha ka ahaan jiray ee laga qaaday Maxamed ibn Abi Aamir qoladu ka tirsanaa weeyaan mahdigani wuu qaldanyo qoladii uu dawladooda baabiiyay ayuu markii la soo eriyaday hadana uu yimiyo uu leeyahay ninkii amawiga aanu iskureerka ahayn meesha ay kala qabta fatal waadix waa aqbalay laakiin waxay yiraahdeen ninkii uu xoogan yahay malak qashtaalana waa kii ka haysto meesha waa isku qabsadeen kama qaadi karnay maxaynu sameeynaa waa loo fakaray waxa la yidhi aan gaal kala raadino dabeetana mamlakatu Aragon Barcelona magaaladan la yiraahdo ayaa caasimad markaa u ahayd Barcelona boqortooyo ka dhisnayd oo qolada gaaleed ay lahayd ayay u yimaadeen boqorkii haystay waxay yiraahdeen waxaanu rabnaa Sulaymaan ibn al-Hakam iyo xogaaga barbarka oo haysto Sulaymaan ibn al-Hakam kii meesha qabsadayna qishtaaliyiintii mooyaane wuxuu kala la qabtay meesha mooyaane wuxuu soo dhaweeyay qabaa'ilkii barbarka oo qabaa'il aad u xoog badan oo tiro badan oo wadanka joogay kuwaas markaa sanad u ah waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay inaad nala duusho oo aad nala qabato khilaafadii islaamiga ahayd oo ay gacantayada soo gasho ninkan ay u tageen Barcelona haysta
ودول كي يرى جزية بحين شري وعبد الرحمن الناصر جزية سين شري ومن بعد هنا الحاج بالمنصور با جزية كغاد الشري نكي جزية بحين يبين انت وتقيم بي وحيد هذين وحن ربنا ينادنا لفرطه وضنكي او ماشي نلقبطه امير برشلونة وحيد واصفي عن لكن بالشروط شروط باندقانية شروط سيبان دي كل الدولية وما حيبان لي شروطات والله من نودس كسرانية لعيدا ما هيستاني وحيد عيد مدينية وحينا كلام مركا كان ستان أنا قد دجالكم أنتوا السعودة بيقولوا مالك استوى الدجال كاس السعودية بقول دينار وذهبي يبانها وبقرطيوضة إلى هذا عشورة مالك استوى الدجالكم السعودية دولة برشلونة إلا سيا بقول دينار وذهبية كو عيدا ما ندنسينا إياه عيدا كان ندنسيا أسكري كاستوى الدجال قاله وحربها هل دينار وذهبية إن مالنتي إلا سيو أسكري كاستوى الدجال كقاله هل دينار وذهبية إنه هلا أفر waxaan rabaa buu leeyahay dagaalka markaynu gallo ama saddex dagaalka markaynu gallo hadii aynu jabinno khilaafadiinaasi wixii hub la qabsado inaan anigu qaato dawladda Barcelona inay hub ka qaadato afar waxaan rabaa buu yiri madiinada Salim la yiraahdo oo ah mudankii uu furtay Cabdiraxmaan Naasir ama Cabdiraxmaan Thalith ninka la oran jiray dhulkii uu furtay magaaladaana in muslimiinta laga soo wareejiyo aniga gacanta la igaliyo afarta sharti hadda aqbalaysaan way idin la duulaya boqortooyada maalintiiba 100 giniya oo dahaba 100 diinaar oo dahaba askari kasto aynkaasiya waliba askarta wadankii wuxuu ilaamiyay in nimankii muslimiinta ah lagu duulayo wariya tatawucaya buu yidhi duulaya oo waliba lacag helayo maalin kasta hal gini baa la idin siinaya dadkiiba askar bay soo qoreen waxa la yidhaahdaa anaga duulayna la meesha lacag baa ka furantay duulimaadkiiba intiiba uu ka aqbalay waxay yidhaahdeen intaaba waa ku saxeexnay in la duul intii markii loo saxeexay ay la duuleen waxay jabiyeen markaasi Suleymaan ibn al-Hakam iyo barbarkii la socday sidaasay Barcelona madiinadii Salim la oran jiray ku qabsatay wixii hub iyo qanaa'im la helayna qaateen ee muslimiinta laga furtay mahdina xukumkii uu ku qabsaday oo magaaladii Qurtuba uu dib ugu soo noqday muddo yar markii la joogay labada nin ee soo wada duulay dawladdii hore isku dileen oo iyaga laftooda heshiis ma aha al-Fath al-Waadix ba makiida u dhigay oo mahdigiina isna uu ka takhalusay maashi isaga isu dhigay laakiin dawla al-Aamiriya fikradeedii buu qaato wuxuu sidii warkaliga mala lagu ogolaan maayo dawladnimadee nimankii amawiyiinta wax ka raadi المؤيد بالله هشام بن الحكم بن عبد الناصر كي غوريga ku xidhnaan jiray oo meel iska joogo soo helay markaas uu war khilaafadii baa soo dhiciyay kaale mar dambu ki kameesha laga qabsanaya waa walaalkii waa Suleymaan ibn al-Hakam هشام ibn al-Hakam buu soo ka haystay Fath al-Waadix dabeetana wuxuu yiraahdaa adigu noqo boqorkii meeshii buu iska fadhiistay kiina Suleymaan ibn al-Hakam baa meeshii qabsaday waxaan leeyahay Fath al-Waadix ayaa meeshii qabsaday Suleymaan ibn al-Hakimna waa la yeeriyay قالديك سبي برتي سليمان بن الحكم سنوح بل ملك وقشتالة دبوا النقو قال الآن إلى ذكره دبوا اللافت وحوتجي الفانسيه كتلين شري قشتالة برجي هرنا زهاعدة مهدي لفدي محمد بن هشام بن عبد الجبار نكي ماشي كلا قاضي waxay yiraahdeen meeshii nalaga qaad de mar damar rabnaa inaan nala duusho saasmiyaha bal saddex shay suga buu yiri saddex casho hal ay sugo saddexdii casho uu joojiyay ayuu boqorkii qashtaale haystay nin buu soo diray qoladii kan inqilaabtay buu u tagay uu nin u diray wuxuu yidhi halkan waxaa ila jooga Suleymaan ibn al-Hakam oo raba in la soo duulo waxoogaana dee ballan qaadana waan ka hayaa maxaan kaga hadhi karaa idinku ay siineysaan haddaad rabtaan inaan la soo duulin
waxa la yidhi waxa allaaliya waxa qalcad muslimiintu leedahay waqooyiga ku yaalla qaado ha soo duulin nimankaa ha soo raacay boqorkii qishtaale waxaanu filayn baa u soo baxay waxyaabihii la kala dooransiiyey waxaa ka mid ahaa markaa qalcadaha waqooyiga ku yaalla waaweyn ee xusuntii muslimiintu lahayd in isaga la siiyo duulimaadka ninkanna uu ka hadho wuu aqbalay markaas sulaymaan ibn alxakam duulimaadkiisii buu iska daayey isna wuxuu qaatay qalcaadkii waqooyiga ku yaallay muddadaasi kooban ee waxaasoo dhamme dhaceen aan ka warramaya waa 3 sannadood gudahood waa 400 ilaa 403 3 sannadood gudahood baa waxaasoo mashaakili dadka ku dhaceen sulaymaan ibn alxakamkii haddana barbarkii buu dib u kiciyey meeshii ma joogin waa soo noqdeen qurtabuu soo galay magaaladii buu fasahaadiyey kufsi dumar dad la laayo wax walba wuu sameeyey ninkii almustaciin billaahi la odhan jiray la baxay hishaam ibn alxakamkiina meeshii buu ka eriyey meeshiina dib buu qabsaday waxaasoo dagaali waxay dhex marayeen waa 2 nin oo walaala ah qolabana qolo eryanisay muddo aan badnayn ayaa fitankaasi soconayay waqti yar kadib ay qoladii barbariyiinta ninkan waday baa waxay dhaaheen horta heedha maxaynu ninkan u wadnaa maynaba meesha qabsanno intaynu wadno ninkan umawiga ee sulaymaan ibn alxakamka maynu sulaymaan kaba ka takhallusno inagu qabsanno iyana meeshii bay ninkan ka qaadeen waxaaba qabsaday meeshii gebigeediiba nimankii barbariyiinta ahaa cali ibn xamuud nin la odhan jiray waa qurtabo qabsaday walaalkii qaasim ibn ishbiili u dhiibtay dabeetana meeshii bay qabsadeen caamiriyiintii oo almurtada billah ninkii la odhan jiray la socdaa soo noqday dagaal badan baa dhacay kullu hada maxaanu tilmaamayaa waxaanu socdaa uun waxoogaa yar inaan tilmaamo dawaama ayay gashay dowladda islaamiga ee meesha joogtay marka ay taariikhdu maraysay 422 meelahaasi ee warkii loo adkaysan kari waayay maalinba meel mid qabsaday ee dhibtii tiro badatay ayaa qaadigii magaalada qurtuba loo yimi waxa la yidhi sida tan loo adkaysan maayo maxaa la yeelaa wadaadadii waa shireen dabeetana waxa la yidhi khilaafada baan ridna abulxasam ibnu jahwar qaadigii la odhan jiro nin cibaado badan cilmi badanna ahaa ayaa madax laga dhigtay waxaa la riday khilaafadii ama dowladdii meesha ka talinaysay markii burburkeedii tiro batay dabeetana waxaa la iclaamiyey majlisu shura majlis la yidhaahdaa inuu ka talinayo qurtuba magaalada loo yaqaano khilaafadiina inay dhacday dowladdii khilaafadii islaamiga ahayd andalus ka jirtay waxaa lagu kala diray shirkaasi uu qabtay abulxasam ibnuljahwar caalimkaasi la odhan jiray iyo culammadii la socotay waxaana la goostay in majlisu shura uu ka taliyo waddankii laakiin waddanku wuxuu iska noqday waddan dhibaato tiro badan ay ka jirto qabaa'il u kala googo'an waayo waddanka waxa deganaa dad carabta deganee tirada badani gaar ahaan 2 qabiil bay u badnaayeen carab reer mudar ah oo ah carabtii xijaas ka timi iyo yaman iyo carabta qaysiyiinta loo yaqaano oo reer shaam ahaa waxaa kaloo joogay barbarka oo qabaa'il aad u tiro badana waxaa kaloo joogay qabaa'il ama dad loo yaqaano asaqaaliba saqaalibadu culamada taariikh dadkan ay saqaalibada ku sheegaan waxa weeyaan 3 qaybood baa loo qaybiyaa saqaalibada kuwa yidhaahdaan saqaalibada galbeedka oo waa boolandiyiinta iyo jeek iyo slovakiyiinta iyo kuwaasi kuwa loo yaqaano saqaalibati sharq oo ruusiya alkibaar iyo ukrainiyiinta ama ruusiya siqaar oo belarusiyiinta iyo wax la mida iyo saqaalibada junuubka oo ah yurubta koonfureed kuwa jooga dadkan intooda badani waxay ahaayeen dad waddanka jarmalku intuu duulo
oo caruurtoodii wuxuuda soo qabqabsado iyo adoonnimo loo iibin jiray dabeetana mujtamac dhan sidii mamaaligtii atraakta ama masar oo kale qabsatay dad noocaasay noqdeen marka waa qabaa'il tiro badan oo iyaguna waddanka degan markii ay dhacday in dawladdii khilaafada ahayd ay baabaado loo soo guuro majliskaasi shuurada ay culammadaas sameeyeen waxaa dhacday inaanay iyaguna xukumin magaalada intan ay magaalada joogaan mooyaane waddanka intiisa kale aanay xukum xooggan ku haynin sidaa daraaddeed waddankii wuu kala googo'ay waxaa soo baxay 22 dawladood oo cusub andalus meel yar bay ahayd andalus waxaa lagu tilmaamaa inay ilaa 600,000 meelahaasi in ku dhadhow 600,000 kilomitir isku wareega inay tahay يعني waddankii Soomaaliya 627 buu ahaa Soomaaliya in leeg rulahan marka la eego Soomaaliya oo 22 dawladood noqotay qiyaas reer waliba intii yareeyay oo haystay intuu goostay ayuu dawladda iclaansaday marka hore 7 qabiilo waaweyn bay u kala googo'een banu Abaad niman la yiraahdo oo Ishbiiliya iyo agagaarkeeda qabsaday niman banu Ziri la yiraahdo oo Qarnaata iyo agagaarkeeda qabsaday banu Jahwar oo qaadigeenu ka warramaynay oo isagu Qurtuba iyo manaatiqda ku xeeran qabsaday bani al-Aftas niman la yiraahdo Berberiyiina oo iyaguna qabsaday Batlios magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhadhow bani Dhannuun nimanka la yiraahdo oo qabsaday Tulaytila Toledo magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhow bani Aamir nimanka la yiraahdo oo iyagu qabsaday Valencia ama Valencia meeshan la yiraahdo banu Hud oo yana qabsaday Sarqasta ama Saragoza magaalada la yiraahdo iyo inta u dhow waa Spain tan yare arkaysan ee Portugiiskan intan oo 22 dawladood loo qaybiyay Portugiiska iyo Spain oo la isku daray oo waliba qaybta sare oo dhan Lyon iyo maxaa la yiraahdaa Qishtaala iyo qaybtan Barcelona Aragon dawladii loo oran jiray intaasina dawlado kale Kristaan ay ka sameeyeen intii ka hooseysay ee muslimiintu haysteen ayaa waxa loo kala qaybiyay 22 dawladood taasi waxa soo baxday markaasi qabiil wal ama reer yar waliba intuu meel qabsaday ayuu dawlad ku sheegay meel yar oo kasto dawlad lagu sheegay waxa loo samaystay nin madaxweynaha oo amiirul mu'miniin sheegta magaalo waxa haystaa waana laqabka la yiraahdo amiirul mu'miniin buu haystaa ciidan buu leeyay wasiirru leeyay lacag buu daabacday gaar oo rasmigii madaxtooyadiisu ku yaalo safiirru leeyay uu dirto nin waliba dawlad wixii ay sheegan jirto dhan ayuu sheegtay dabeetana waxay noqdeen dawlado yar yar oo 22 oo 22 kuba ay col yihiin oo mid waliba walaalkiisa ugu dhow ee muslimka uu iska eegayo si uu walaalkiisa u dhow muslimka ugu xoogaystana dawladaha gaaleed ee markaas ka xoog waaweyn mid kamid ah uu dabada saaray ama se uu ku tiirsan yahay taasi waxay keensatay in gabayaagii la oran jiray al-Hasan ibn Rashid sidoo imaam Dhahabi siyarkiisa jiska 17aad safxada 144aad ku soo naqlinayo inuu gabayo yiraahdo mimma yuzahiduni fi ardi andalusa سماع معتصم فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد يعني قبياغا سي مسلم كابا وحلي وحيابها نغت جيب أندلس وحا كم دبولي دولك أندلس وحا نغت جيب مغاعيدا تراد بدن لمعتصم يا معتضد المعتصم بالله المعتضم بالله المرتضي بالله المؤيد بالله مدوى لبا لقب كي مدحتويد ولا هان جرتay buu la baxay waxaan ka fogaaday waxa kamida buu yiri magacyada tirada badan leh ay nimankaas la baxeen wa alqab mamlakatin fi ghayri mawdi'aha bulay wa magacyo dawladeed وان لكن ميل دولدي joogto loo bixinin كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد بعض الروايات صورة الأسد بينها واسيدي بو يري ان على هذا عري جير كلي باح اسكا كعيي عري هدو جير اسكا كعيي دي اللي باح نقون مايو وبسدي ان انت جير اسكا كعيسي جير اللي باح سو كيسيسي بو لي بي لمدين يعني الدوله معها waxa bilaabmay waqtigan waxa ay taariikhda loogu yaqaano casru muluk at-tawaif 422 ilaa 483 buu socday
422 ilaa 483 waa waqtiga ay la baxeen markaa muluku tawaa'if muluku tawaa'if oo ah qaybaha aynu soo sheegnay ee labaatanayada ku dhadhow waxay caan ku noqdeen kow dad taraf jecel bay ahaayeenoo nimacaystay wadanaad u lacagaystay oo nimacaysta baa la googoostay dabeetana waxay noqdeen bay leeyihiin dad tumasho heeso bariis iyo baastiya wax la cuno un laga shaqeeyo cuno un laga warramo mujtamac nooca u koray bay noqdeen bay leeyihiin waa mar labaad waxay noqdeen mujtamac duwaylaad yaryar oo dawlad waliba colka ugu weyn ay leedahay uu yahay kan yara kale u jaarka reer hebela meesha yar ay haystaan waxa soo baxay bay yiraahdaan munkaraadkii oo dib u soo noqday iyo fusuuqii iyo wixii la mida waxyaabaha aadka u foosho xun la soo korayna waxa ka mid noqday dawlad waliba si ay u jirto kuwan yaryar ka midi waxay dhabarka saartay dawlad ka mid ah dawladii gaalada ee roona ama iyaga ka xoog badnaa markaasi ayay mid waliba dhabarka saartay waxyaabaha ka sii foosho xun la meesha tan ka soo baxay waxa ka mid ah dawladaha yaryar intooda badani waxay bixin jireen jizya si ay u jiraan yani waxa taariikhda ku daraasan jirteen dawlad islaamiga jizya qaata kuwan iyaga jizya bixin jiray waxaana la siin jiray maliku qishtaala iyo boqorada kale u dhadhow ayaa jizya ka qaadi jiray duwalkan yaryar sanad walba uu cashuurta ku soo dalaciyo lacagta laga rabo inay soo diraan intii hore laga badinayo iyadoo la leeyahay waxa la ilaalinayaa nabadgelyadaada iyo dadkaaga iyo mujtamacaaga lagu ilaalinaya waxay soo baxeen boqorro yaryaroo markaa nin waliba meeshiisa sidii u xejisto un dawlad weyn oo gaaleedu ku tirsay iyadana intuu lacag siiyo uu yidhaahdo kuwan kale ama magaalo iga qaad ama igu yaro durki ama aan kan magaalo ka soo qaato waxa la isku hayoo dhammina waa magaalo aan kan ka riixday iyo magaalo kaasi ay iga riixdo xad bay gaadhay ibnu xasam ilandalusi caalimkii la odhan jiray uu yidhaahdo weedhaadu laadica wallaahi low calimuu ana fii cibaadati الsulbaani tamshiyatu umuurihim labaadaruu ilayha فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه وأود ابن حزم ابن حزم باوحو قاعدين يداهدو إلهي بان كدارته هدي أيو قادان بيدو كون مدحض الشيغانية عبادة السلبان كرسك إن يعبدان إن الرمود وقفضان يا نار أنتوا كلا صعونيسو وإسك عبد يا بيدي وضعنا ما ضحى بيدي هدي ما أنت الله يداه كرسك عبدان رميه سوا وكلا سهلان يا أد وصبير يا بيدي ساسي درادات بيدك مسلمين تا حرم كودي يا دمر كودي يا أبنادو دي الرجودي با إياكم محابيس الله قاضي يا بيدو دول كجالة دول لو حدنا يا مقالو عندنا مسلمين تو لهايين بالصين يا بولي يا قلعة عندنا مسلمين تو لهايين وإسلام كأنت لقت ترترو ناقوس لقت نحتاج يا بولي إلى هي دمان تو تهنا عضلو أو سيف سيفتي سكمدا الله كوي تحامى بكو جبي ووداد عروضي وحكم مقاطع يعني وحو الدرهم يسيداي وحو وجيران دول كان يريري waxay ku caan baxeen runtii xaakim waliba inuu meel yar intuu qabsaday dawladnimo sheegtay dawladii sayriin aanay jiri karin ilaa iyo dawlad gaaleed oo kale dhabarka saaro mid waliba ninka ku xiga muslimka inuu col leeyahay ka foge kale gaalkaan inuu lacag siinayo ama jisye uu bixinayo casriga caynkaasi andalus dhibtaasi ay haysatay sida ay u kala daadatay waa casriga ugu culamo badnayd hadana taariikh islaam marka dib loo daraaseeyo waa waqtigu ibn abd albar noola 463 kii buu dhintay casri tawaif dhexdiisu dhintay waa waqtigu noola abul walid al-baji 447 kii buu geeriyooday waa waqtigu noola ibn hazm 456 kii buu geeriyooday ووقتك نولا ابن حيان أفربولي سجالي لحدن كيبو جريودي ووقتك نولا ابن السيدي أفربولي شني سديتن كيبو جريودي وحو علماء دي وجود ناية تاريخ ده تلمامته عصر طوائف بين ولاية ملوك الطوائف وقتك كره يتلينيه بل الإمام أبو الوليد الباجي باجدا لون إسبانيا وباجا ومقالة يروكو تالله برتغيسكا أبو الوليد الباجي عالم كان لورن شري مركو أركي دول كان يريرا مسلمين تيسي وكلادات سينيو دبعتها هيستا صدن صندوق بدح سعودي سقول مدوبة
soddon sannadood baa la yidhahdaa magaalo kastoo ka tirsan ama meel kastoo andalus ka mid ah socod buu ku maray isagoo ku dhawaaqayay dadkan muslimiintii inay midoobaan oo laysu yimaado waa ka ibnu xasam kitaabkiisa naqat alcuruus la yidhaahda nuqat alcaruus kitaabkiisa la yidhaahda buu wuxuu yidhi fadiixatun lam yaqac fi ddahri calaa miliha waxaa jirta buu yidhi fadiixo aan taariikhda bini aadamku hore u soo sheegin buu yidhi arbaca rijaalin fi masaafati alaaثata ayaamin tasama kula waaxidin minhum amiira almu'miniin buu yidhi afar nin oo masaafo 3 maalmood loo kala socdo mid waliba intuu meel yar ka degay buu yidhi uu sheegtay amiirulmu'miniin inuu yahay mu'minkoo dhan buu amiiru yihi afartan mid waliba mu'minkoo dhan amiirnimadiisa sheeganaya 3 casho socodaba lagaga tallaabaa meeshay degan yihiin ninka caadiga maalintii 40 kilomitir buu socdaa 3 casho waxa laga yaabaa 120 kilomitir in la socdo waa 120 kilomitir dhul ah oo afar amiirulmu'miniin joogto oo nin waliba meel ka talinayo oo khataba lahum biha fi zamanin waahid oo afartaba buu yidhi waqti qura khudbadda jimce mid walba amiirulmu'miniin inuu yahay loogu ducaynayo oo khudbadda lagu akhrinayo buu leeyahay markaasuu wuxuu tilmaamay afarta kuway kala ahaayeen mid waa khalaf alxusari buu yidhi oo ishbiiliya ah calaa annahu hishaam almu'ayid waxaa jira hishaam almu'ayidkii oo culamo taariikhda qayb ka mid ay qabaan inuu waqti hore dhintay ayaa waadanba uu nin qaadiyo meel haystay uun baa ninku yidhi waxaan arkayba hishaam oo masaajid yar oo halkeena fadhiya dabeetana nin baa loo keenay war hishaamkan yaa garanaya inuu ninkani hishaam almu'ayid yahay mid la yidhi shaqaalihiisii baa la raadiyey waaba isagii baa la yidhi dib baa loo magacaabay isagoo ah boqorkii almu'ayid billah beri horeana taariikhda qoraysaa inuu dhintay markaasuu wuxuu leeyahay khalif alxusari baa ninkan la odhan jiray oo isagoo magacii ninkii dhintay sitabaaba boqornimo loogu khudbadaynayay ka labaadna waxaa buu yidhi moxamed ibnu qaasim ibnu xamuud oo jaziirat alkhadra meesha la yidhaahdo marka la soo galaba andalus xagga hoose ee tanja iyo marka laga soo galo goobta koowaad ee la yimaado aljaziira alkhadra meel loo yaqaano moxamed ibnu idriis oo isagana maalqa magaalada la yidhaahdo looga khudbadaynayay iyo idriis ibnu yaxya oo shantarin magaaladan la yidhaahdo yacni wuxuu tilmaamayaa ibnu xasam inay ceeb tahay aan la aqbali karin in afar 120 kilomitir inay yeeshaan afar amiirulmu'miniin inay ka soo baxaan waxaa gaadhay waqti andalus taariikhdeedu runtii si tiro badan ay leedahay waa waqti marar badan aad soconayso akhrigeeda ama ka warrankeedu uu dhib badan yahay waayo markaad maqasho طليطلة لعتان كيديو كله طليطلة وعاصمة دي برجي هوري سبين لو قلت لينشري المسلمين تمركي فرتين عاصمة القوط بركي هوري هانشرتي الثغر الشمالي بي علماء التاريخ تكت المامان ان ملك الفانسو السادس مركو قبسنا يي نمان كلام مسلمين كل الدولة وعدو المسلمين ولا قبسنا يي ونمان كلام مسلمين كل الدولة عدة قبسنا سنة ويهي ان ملك قشتالة تاريخ الإسلامي هوري لما أركي شري in nin muslima uu ku soo duulo kooxo kale oo muslima oo waxa loo qabanayaa inuu yahay nin gaaleed inuu qabsado meesha tan bal malik qashtaale intuu kibray markaasi waa alfanso saadis isagoo waagii hore aabihii markuu boqortooyada ka dhintay ee 3 nin oo walaalaha bay ku qaybsadeen mid baa dabeetana labadii kale baa soo eriyaday oo meesha ka qaaday alfansahan isagoo qaxoontiye buu Talaytile yimi Talaytile joogi jiray boqorkii Talaytile soo dhaweeyay meelahan oo dhan buu tustusay wixii oo dhan markuu soo eegaaga uu noqday ayaa walaalkii dhintay markuu walaalkii dhintay boqortooyadii isaga dib loo siiyay ninkii halkan qaxoontiga ku ahaan jiray ee dib loo diray ee meeshii tagay meeshii buu dib ugu soo duulay markuu meeshii qabsaday alfansahan madow Afrika joogo kala siisay weeyaan meeshuu qaxoontiga ka ahaa ee uu shalayto qaxoontiga ku ahaa ayuu dib uga soo duulay markii uu la saaray meeshii dib loo saaray wuxuu gaadhsiiyay markaasi xad uu gaadhsiiyo in jisyada markuu ka qaado yani culimada taariikhda ayaa maasida markay ka waramayaan maasida qaarkood yani culimada taariikhda kamid waxay warinayaan inuu soo diray nin kamid ahaa boqor wasiiradiisii oo yiri lacagtan la isiinayo jisyada si fiican u soo baad lacagtu de waxay ahaan jirtay dahab iyo fidda
marka lacagta laga qaadanayo nimankan naaqidiinta ah ee baa jira waxaan eegaa inuu real yahay iyo wax dee macdan aan real ahayn inay tahay marka lacagtii markii laga ururiyay wixii almuctamid billah kii la oran jiray meeshiisa markii la joogay ayuu wuxuu ku yidhi boqorkii arrin kale uu soo faray waa boqorkii yaraa qashtaala haystay ma maxay buu yidhi arrinta kale uu soo faray boqorkii wuxuu yidhi waxa gabadhaydii baa umulaysa dabeetana nimankii qisiisiinta ahaa wadaadadii baan la tashaday tale waxa la ii sheegay in loo baahan yahay si aan muslimiinta uga xoog bato oo aan ugu wada qabsan karo in islaantaydu ay ku umusho masaajidka qurtuba waa codsi uu soo qortay maliku qashtaala boqorkii almuctamid billah ishbiliya ka talin jiray ayuu wuxuu leeyahay qurtuba isku haystay buu wuxuu leeyahay waxa loo baahan yahay boqorka habartiisii baa umulaysee inay ku dhasho masjid qastaala masjid qurtuba masaajidka weyne qurtuba yani waxa tan keenaya waxa weeyaan waa markii uu dareemay dadka kale inay dad kala lumay oo liita oo midba ka ku xigay iska eegayo oo midna aanu keligii markaa iska celin karin ama aanu wax iska rabi karin uu yahay uu ka qabsaday magaaladii Tulaytile la oran jiray ayaa codsigiisu xadka kan gaadhay taasi waxay sababtay inuu waxoogaa naqwa qaado ninkii safiirkiiba uu dilo loo soo diray oo dabeetana rabshada ay dhacdo oo ninkii duulimaad soo qaado oo mashaakil tiro badan ay u dhaco ilaa xad markii dambe boqorradii yaryar ay isu yimaadeen oo yidhaahdeen war maxaynu samaynaa waddankiina difaaci kari mayno markaasay yidhaahdeen aanu nasriga aan soo waaridno war aan caalamul islaami dib u eegno shimaali afrika ama shimaali afriqiya north africa dowlad cusub ka dhalatay oo dowlad almuraabitiin la oran jiray oo markaas uu ka taliyay nin salafi ah oo la oran jiray Abdullah ibn Tashfin Yusuf ibn Tashfin la yiraahdo uu ka taliyo waa oday 80 jira oo faraska fuushan hadana dowladii ninka iska talinayay bay u dirteen caawimo inuu soo siiyo dabeetana hadana iyagii baa dhexdoodii shakiyay waxay yiraahdeen hadduu inaga ka ciyaar muyna qabsadaade diiba uu ninkan inaga riixaar mu isagu meesha qabsadaa maalintaasi waxay ku tilmaamaan almuctamid billah ibn Abaadkaasi go'aan adag buu maalinta qaatay wuxuu ku yidhi wallahi la nar'a inaan geela ku raaco saxaaraha ayaa dhaanta buu yidhi inaan khanziir raaco يعني إنه نكاس ما شبه سوق قبضة وقال أي درتبان كدور بداية إن قشطالة أنتوا يقبضة خنازير تلا راعية بوليه هاي ده بتناول حقيقتين قوان كا إن مرابطين تالله يرده يوسف ابن تاشفين يعيد مدي سبايمي وقعد عن كزلاق الله يقنا يا دعدي وقعد تاريخ ده دقعانة دبنا له شبيي qashtaale iyo nimankii ka talinayay markaas dib loo jarbiyay isaga darqo ku baxsaday ciidamadiisa dhamaantood meesha ku jabeen qisaska taariikhiga ee masaa'ilkan ku saabsan mar rabo inaan balbalaariyo laakiin waxa aan rabaa inaan tilmaamo mujtamacu markuu dhexdiisa isagu uu isnaaco dabeetana uu noqday yaa kursiga ku fadhiya kadibna tuulo waliba madaxweynaha ay samaysato waxa iska ilaalinaysaa ay tahay tuulada kale ku xigta isaguna uu waayo waligiiba magac dawladeed ha sheegto lacag ka samaysto wax yar ha qorqoro laakiin uu waayo muqawamaat alxayaa qaabkii loo noolaan lahaa uu waayo oo noqdo waxaan isdifaaci kareen ama waxba iska celin kareen waxay noqonaysaa inuu taxta saytarati dawlatin ukhra dawlad kale inuu iyada ku hoos noolaado oo wixii loo yeedhiye kasta uu aqbalo si ay tiisan yari u jirto 22 dawladood baa muddadaasi yar meeshan ka talinayay oo midba ka ku xiga uu iska ilaalinayay oo dawladan kale ee meesha taala uu rabay inuu haddana nimanka waxa sameynaya dhan kale faqri ma hayn xolalaani ma jirin waa waqtiyadii ay ugu badnaayeen waa waqtiga yawmuutiin ay dhici doonto waa taariikhda waa maqashaan yawmuutiinka la sheego nin boqorada kamida ayaa islaantiisii boqortooyada xagga sare fuushay dabeetana iyadoo roobda ay bay waxay aragtay dad wadada lugaynaya oo dumar ah oo cagaha dhoobo intay ka yara fayteen dhoobo dhex socda markaas waxay tiri boqor
aniguna waxaan doonayaa inaan dhoobadaas oo yara batalaqsado dabadda u baxo qofka bini aadamka waxa caadiya inta ka maqan buu bini aadamku moodaa inay tahay nimcada rasmiga imka ninka baadiyaha jooga ee aan waxba haysanin talow daaraha dhaadheer mar uun yaa fuula buu isleeyahay kan daaraha dhaadheer fuushanina yaa buraha mar uun kora buu isleeyahay soo carcarara bannaankaasi oo hiita yar buu dhisanaya waa nolosha bini aadamka caadiga ah yacni qofba inta uu haysta mooyaane inta kale uu raadceeya uu arkaa inay raaxo tahay oo inuu soo sameeyey waxaas islaantan boqorku qabo 800 hablood baa la yiraahdaa dad ku dhadhow baa shaqaalaheeda ahaa u shaqaynayaan waxay jeclaatay inay dabadda u baxdo dhoobadaasi ay soo yara batalaqsato ay soo socoto dabeetana wuxuu yidhi boqorkii waad batalaqsanaysaa wuxuu amray tiinatul muluuk in loo sameeyo dhoobo boqortooyaha loo sameeyo buu yidhi waxa la soo gaday wadanka wixii miski iyo cambar iyo wax la isku udgoonayo dhan yaalay dabeetana hal la cajiimaa la yidhi wixii baa la isku cajiimay meel bannaana loogu sameeyey aagaamo yaryarna waa loo soo iibiyey xambaarato dabeetana waxaa la yidhi halkaasi ku batalaqso waxay ku batalaqsatay markaa dhoobo laga sameeyey miski iyo cambar iyo waxa waa kuwa culimmada taariikhdu sheegaan inay beri bay islaantiis qabteen markaasay tiri wallaahi ma ra'aytu minka khayran qatu waligay wanaag kaama arag nama maalintii dhoobadana buu yidhi xataa yowmutiin ayuu tilmaamay baa la yidhaahdaa ibnu cabbaadkani weliba wuxuu ahaa nin gabayaaya aad u gabay badan buu ahaa walidaalik akhiiran horta xabsu ku dhintay isagu dowlad muraabitiin baa qabatay oo la xidhay magaalo yaroo Morocco ku taala ayaa lagu xidhay magaaladaas ku dhintay nin aad u gabay badan buu ahaa gabayadiisa cajiibka waxa kamid ah maalin ciideed isagii markii la xidhay reerkii la masaafuriyay meeshii dawladda kale ka dhaceen oo qabsadeen ayaa waxa ku dhacday maalin ciideed buu arkay caruurtiisii hablihii uu dhalay oo kabala oo caguhu dildilaaceen oo islaantiisuna islaan gabayda bay ahayd oo adiibada oo macruuf la yaqaano islaantan uu yoomuteeka ku taamayay oo islaantiina iyana reerahay maryaha u toshaa qortooyadii iyo nimadii waxa ka dambeysay qaxoontinimadaasi isla wax xabis ku jiro islaantanina ay reeraha u tosho marada ay u tosho maalintii dambe caruurtiisii u timo gabay aad u macruuf u tirinayay oo marka dambana uu ka gabayayo cagaha hablihiisa buu ka gabayay uu leeyahay waxaad moodaa maalinna inaanay qoladii dhoobadii ku socotay yaani maalinna inaanay qoladii miskiga taabatay ahayn baad moodaa gabay uu tirinaya aad runtii gabay calaacal badana oo uu oranayo yaani ninka iga dambeeyo adduun yaani farxad male waxba waxaad haysato isku dhoobadiiba waxaanu ka joognaa buu leeyahay kabalaantaas gabay uu tirinaya waxaan uga jeedaa mayla ayn dhaqaale lama la'ayn ama dad aan hanti haysan ma ahayn dad dacfi kale ka jira ma ahayn laakiin waxa ugu badan ee meesha tan ka jiray wuxuu ahaa khilaafkaasi mujtamaca soo dhaxgalay iyo kuraasidaas yaryar la isku qabsaday iyo mabaadi'dii kulliga ahaa ee la haystay oo la ilaabay oo loo noqday markaasi in dawladaha kale dhabarka la saaro oo la isku dayo taariikhda andalus meelo qurux badan iyo meelo liidataba way leedahay meelaha kan laakiin aan ka warramayo ogaan baan u doortay waayo horaan waxaynu soo nidhi taariikhdu waa beejaj maalinba bog la rogo la akhriyo bog kasta aad joogto waxaad arkaysaa bog hore taariikheed oo la mid yahay dad maanta arkayso duwal yaryar oo tiro badan oo muslimiina 200 iyo 500 inta meel fadhiistay yiri dawlad baanu nahay andalus 290kii laga bilaabo ilaa 138 hijriyada waxay hoos imanaysay al-khilaafa al-umawiya markii khilaafa al-umawiya ay dhacday ee dawladda al-abbasiya ay meesha qabsatay wiil dhalinyaro umawiyiintii kamid ah ayaa dilkii ka baxsaday walaaladii la dilay isagii baxsaday wuxuu socdaba wuxuu gaadhay wadankaasi cabdiraxmaan ad-daakhil oo saqar quraysh ninka loo bixiyay dawladdaasi isaga dib u asaastay isagoo qariiba buu wadanka tagay oo waxba haysanin laakiin dawlad buu muddo yar kaga dhistay dabeetana dawlad aad u ballaaran ayuu dhisay dhowr iyo 30 sano baan filayaa 4 iyo 30 sanadood ayuu xukumayay
wakhtigiisii intii badnayd thawraad bay kaga dhacday 25 thawradood ayaa ku kacday 34 sannadood ee uu maamulayay akhiiran 170 meelaha markay maraysay ayuu wadanku istiqraarkiisii sugmay madiinada caanka ee madiinada zahra la yiraahdo qurtuba ku taala ee taariikhda mudankii ugu caansanaa dunida ahaan jiray ugu quruxda badnaa ayuu waqtiga dhisay masjid qurtuba oo masaajidka weyn buu bilaabay ilaa iyo markii dambe masjid qurtuba sidii loo weyneynayay 1200 oo tiir buu markii dambe lahaa masaajidka tiirarkiisu bilariskiisu 1200 isagoo 1200 bale oo kiniisada ayuu haddana ka dhisan yahay qurtuba wali masaajidkii waa dhisan yahay laakiin hadda waa kiniisad taariikhdaasi dheer ee wadankaasi leeyay waa taariikh ma si tiro badan leh ama meelo madmadow oo aad u fool xun oo tiro badan leh meelo aad u qurux badan na leh waa taariikh markaasi runtii daraasadeedu ay tahay taariikhaha ugu fiican in la daraaseeyo waayo waa taariikh isbedbedelkeeduna badan yahay asbaabta keentay isbedbedelkana markiiba aad isha ku dhufanayso aan wax badan oo u fiirfiirsi badan kaaga baahnayn marka aan soo koobo haddii aan taariikhdan maraaxil u qaybino marxaladda hore waa marxaladaasi dhismaha koowaad ee ninkaasi dhisay kadib inaanu dhalay baa ka uga dambeeyey kadib inan kale u awowyaha uga dambeeyey qolada hore waa iska fiicnay laakiin waxaan jeclahay meesha u baahan inaynu si fiican u daraasayno inaan isu soo dultaago taariikhdani markay muddo socotay ayaa ninkii ugu dambeeyey wakhtiga aan rabo waxaan rabaa cahdigii muluku tawaa'if ay talinaysay cahdigii ugu fitna badnaa inaynu tagno ee taariikhdaasi ka mid ah waa cahdiga loo yaqaano muluku tawaa'if ama boqortooyooyinkii طائفaadka yaryar ee kala nooca ah muluku tawaa'if waxa ka horeeyay laba boqor oo aad u waaweyn waa cabdiraxmaan الناصر ama cabdiraxmaan الثالث taariikhda bani umayya saddex nin oo cabdiraxmaan la yiraahdo soo maray daakhilkii iyo cabdiraxmaan kii labaad ama thani iyo cabdiraxmaan الثالث nin lagu tilmaamo iyo saddex hishaamkii koowaad kii labaad kii saddexaad cabdiraxmaan الثالث أو cabdiraxmaan الناصر ninka loo yaqaano wuxuu xukumayay wadankaasi 50 sanadood 22 jir isagoo abuu qabsaday waana mararkay ugu qurux badnayd buu wadankaasi gaarsiiyay nin karti leh oo la kacabsi leh oo dawlad xoogan dhistay oo thawraadkii iyo wixii ka soo horjeedo dhan ka takhalusay oo ballaadhiyay dawladda islaamka ee meesha dawlad aad u qurux badan leh buu ka tagay markaas cabdiraxmaan الناصر dawladdii quruxda badnayd ee uu ka tagay inankiisii baa dhaxlay la odhan jiray alxakam ibnu cabdiraxmaan الناصر alxakam waxaa nin caalima aqoon badan diin jecel alla ka cabsi badan dawlad deganna helay isna dhanka cilmigu isaga faafayba waa maktabadihii caalamka ugu waaweynaa ninkii samaystay 400 oo majalladood bay maktabadiisa ka koobnayd isagu nin caalima oo faqiih buu ahaa muddo haystay laakiin qaltadii ugu weynayd buu galay bay yiraahdaan dawladdii aadka u ballaadhnayd ee meesha ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn inan yaroo uu dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadii culamada ugu da'weynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda kuwa ugu yareeyana 7 jir adigu ninuu 7 jir meelahaasi ah داديسو هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر نكي لو رجري هشام الثالث نكوي قانين اما المؤيد بالله لغه المامو هشام كامركي ميشا لو ديبي هشام المير بوها ما دام المير اسكاها وصيبه سميا ما عد الى لسه isaga islaanu hooyaa iyo laba nin oo kale taariikhdaasi mar rabo bitafsiil inaan uga warramo wuxuu mar rabaa mawaadicaan u dan leenahay inaan gaadho waxa isku qabsaday dawladdiiba nin la yiraahdo Muhammad ibn Abi Aamir waa nin qabiil Yaman asalkiisu ka soo jeedo الحاجب المنصور ninka la baxay weeyaan
xaajibku taariikhda hore waa ra'iisul wasaare oo kale ninka uu boqorka warka kala dira ayaa xaajib loo odhan jiray xaajibkaasi taariikhda islaamiga hore xaajibka laqab looma samayn jirin boqorkun baa laqab lahaan jiray المنصور بالله وحين مقالله المقتدر بالله القادر بالله magacyadaasi boqorada lahaan jiray laakiin xaajibka iyo wasaaraddu ma lahaan jirin ninkani maadaama uu dawladii gacanta iskaga dhigay laqab uu samaystay al-Mansuur la yiraahdo isaga qabsaday dawladda dhamaanteed nimankii agtiisa soo marmarayayna uu ka takhalusay saddex nin baa la tilmaamay agtiisa ka dhawaa ma uu islaa waxbay ku qabsanayaan makiidooyin buu sameeyay bay yiraahdaan saddexdiiba uu ka takhalusay dawladii isaga qabsaday wiilkii yaraana wuxuu yidhi inay yar baa tahay cibaadayso boqorrada looma soo galo halkaa ku jir meel buu ku xidhay bay yidhaahdeen inuu iska joogi jiray xataa markuu soo baxayo dumarkaa lagu dari jiray koox dumara inta la raaciyo farda la saaro barnaskan ay qaataan maxaa la yidhahdaa marookaanta iyo maqaaribta idinka arka koofiyaddan yara ku samaysan khamiiska rag iyo dumarba nooc ku samaysan bay qaataan nooca inta loo xidho baa la yidhaahdaa barnaska la yidhaahdo ayuu xataa lagama dhex garan jirin bay yidhahdaan dumarkaa uu la socdo iyo kooxdaasi galbinaysa cidima arki jirin waa iska cibaadaysan jiray meeshiisaasi iska joogay ninkan la yidhaahdo alxaajib almansuur baa dawladda haystay laakiin nin aad u cajab badan buu ahaa dawladdii wuu sugay waxyaaba cajabana waa laga tilmaamaa 52 dagaal buu galay intabana wuu guulaystay culimada qaarna 54 bay sheegayaan لكن إمام الذهبي كنتن يلا بكرجيا كنتن يلا بدأ قال بقولي كنتن يلا بدأ غزوة وقلبي وسوق جولست إذا نوح كرجي ودن كي أندلس لورنشري إسلامي جها ودن آن قلبهم قرينين أكتي سعيد الصومرين حق بدن إمام الذهبي وحكت المام يعني كاسه وكان موته آخر الصلاح وأول الفساد لأن أفعاله كانت حسنة في الحال فاسدة في المآل إمام الذهبي في سيري وحورنا يانيك كان قاريدي سوحي هيدويد وناقا وحي وقدم بيي أعماشي سنة قاريدي سو وناقا وحي وقدم بيي بيهي فساد كان وحي وقوه الرأيي أفعاشي سنبو يدي waxay ahayd xasana fil xaal marka waqtigan la joogo amaladii uu sameeyay amala aad u qurux badan laakiin cidib xumo dambe oo badan ka tagay waayaninkani wuxuu sameeyay khilaafo aanu khaliifku talina qolo kala taliso inaanu dhalay buu uga dhintay kiina halkii buu ka sii hayay 7 sanadood buu meelaha ku sii haystay laakiin nin saalix isaguna ahaa dawladii waxba kama xumaanin mid uu dhalay oo kale ayaa sii dhaxlay ka dambe uu dhalay nin fiican ma ahayn wuxuu ahaa nin marka hore hooyadii faranjiye tahay islaam faranjiyada dhashay islaamii waliba hadiyaadka boqorradu ay u siiyeen mid ka mid ah dhashay shangal baa la oran jiray waxaanu ahaa nin fasaad badan aad u fasaad badan ninkaas dawladii qabsaday akhiiran dagaalo iyo burbur buu isna iskaga dhintay waxa soo baxay in lagu kaco dabeetana meeshii waxa qabsaday nin cusub oo umawiyiintii ka tirsan waxa la yiri waayo shanjalkani wuxuu sameeyay khatarta kale waxay ahayd labadii hore waxa iyagu yiraahdeen anagu xaajibaan wilaayada umawiyiintii ba iskalo muayyid billahi ba qolka dambe ugu jiray war maxaa muayyidkani qolka kaga jiray buu yiri muayyidkana waa ha iska tago aniga ah buu yiri خلافة ولي العهد بوشيكته مركها بعد المؤيد بالله إنه يسوي ولاية لا ولايتنا أي وريكتي الدولة الأموية أما قريشين تنوي ولاية ضدكم نوع ما هو يقدم بين لكن كان هو عامري يمنية مركها ما وقدم بين يان ضدكم سيدي لو قدم بين أول واحد يكون معمول يعني حاجبين أما هنا سلطة يعني رئيس الوزراء وكيهي nin محمد بن هشام بن عبد الجبار la yiraahdo umawiya baa lagu kiciyay dabeetana ninkaas meeshii inqilaabay waa qabsaday waqtiga kan waa ahdi fitna bilaabantay waa qarnigii shanaad iyo bilowgiisii 400 taariikhda hijrigii markay maraysay weeyaan ninkani markuu meesha qabsaday amiriyiintii buu eriyay
meeshii buu xoog ku qabsaday waa dawladdii buu isyidhi isku dabarido laakiin looma daynin ee waxaa bilaabmay wakhti fitnaa oo madaxnimadii la isku laayo oo tiro badani dhacdo taariikhda 400 la joogo ilaa 422 laga gaadhay waa 22 sannadood 22 sannadood 13 amiirul mu'miniin baa soo maray يعني waxaad qiyaasi kartaa markaa fitanka iyo mashaakilka taagnaa sida uu eegaya 22 sano oo 13 amiirul mu'miniin oo kala nooc ay soo mareen waxa dhacay ninkii guriga ku xidhnaan jiray mid ay walaalayiin oo boqorkii weynaa al-Hakam caalimka inuu ku sheegaynay uu dhalay al-Hakam ibn Abd al-Nasir nimuu dhalay oo Sulaymaan la yiraahdo ayaa isku dayay inuu dawladdaasi inqilaabo laakiin wuxuu furay albaab cusub oo aan taariikhda Andalus lagu aqoonin albaabka maalintaasi furmay Andalus wuxuu ka mid yahay waxyaabihii keenay inay burburto markuu arkay ninkan madaxda iyo qolada dawladda haystay inaan u babacdhigi karin ayuu wuxuu qabtay dawladdii gaalada ee ugu dhaweyd qashtaala meel la yiraahdo qashtaala dawladdii weynayd ee muslimiinta Andalus markay qabtay bilaad sakhar buura yar yar oo la yiraahdo oo badan sare ee Spain ku yaala oo qura ayaa ka harsanaa waqti dabadeed dawladda yar way iska weynaatay dabeetana gudaheeda iska dishay way kala gooday Lyon iyo qashtaala bay kala noqdeen qashtaalo waa castle oo af Carabiga markay qolada Carbeed akhriisay qashtaalo akhriyo waa qalca dawladda yar oo meesha joogta ayuu tagay wuxuu kula heshiiyay dawladdaasi yar inay saacidaan way ka saacidaan dawladdii Qurtuba ka talinaysay in la inqilaabo ay ku wada duulaan Alfonso in la yiraahdo dawladda tan nimankii haystay wuxuu arkay fursad saciida inay tahay awal dawlad yar oo jisiya bixisa oo ka dawladda weyn ee muslimka xukunta buu ahaa maantana waxa arkaya muslimkii oo islaynaya fursad buu arkay inay tahay waa ogolahay buu yiraan ku wada duulo waa la wada duulay dabeetana waxa laga qabsaday meeshii iyada ahayd ninkii la oran jiray Muhammad ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar al-Mahdi la baxay ayaa qashtaala iyo Sulaymaan ibn al-Hakam سليمان بن الحكم والله بحي المستعين بالله قلده تاريخ waxay yiraahdaan المستعين بالسليبيين boo ay مستعين بالله ma hayne inta qoladaas oo ka haystay ayaa lagu wada duulay dabeetana dawladii baa ninkii laga qabsaday waxay boqortooyadii dib ugu soo noqotay markaasi wiilashii uu dhalay الحكم ابن عبد الرحمن الناصر wiilashiisii mid kamida oo ah سليمان كان هشام كيبا walaalakii guriga lagu xidhi jiray markuu meeshii qabsaday mahdigii jabay ayaa wuxuu la kulmay wiil la yiraahdo al-Fata waadix oo caamiriya caamiriyiintuna oo nimankii xaajibiinta meesha ka ahaan jiray ee laga qaaday Maxamed ibn Abi Aamir qoladu ka tirsanaa weeyaan mahdigani wuu qaldanyo qoladii uu dawladooda baabiiyay ayuu markii la soo eriyaday hadana uu yimiyo uu leeyahay ninkii amawiga aanu iskuurarka ahayn meesha ay kala qabta fatal waadix waa aqbalay laakiin waxay yiraahdeen ninkii uu xoogan yahay malak qashtaalana waa kii ka haysto meesha waa isku qabsadeen kama qaadi karnay maxaynu sameeynaa waa loo fakiray waxa la yidhaahdaa aan gaal kala raadino dabeetana mamlakatu Aragon Barcelona magaaladan la yiraahdo ayaa caasimad markaa u ahayd Barcelona boqortooyo ka dhisnayd oo qolada gaaleed ay lahayd ayay u yimaadeen boqorkii haystay waxay yiraahdeen waxaanu rabnaa Sulaymaan ibn al-Hakam iyo xoogaaga barbarka oo haysta Sulaymaan ibn al-Hakam kii meesha qabsadayna qishtaaliyiintii mooyaane wuxuu kale la qabtay meesha mooyaane wuxuu soo dhaweeyay qabaa'ilkii barbarka oo qabaa'il aad u xoog badan oo tiro badan oo wadanka joogay kuwaas markaa sanad u ah waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay inaad nala duusho oo aad nala qabato khilaafadii islaamiga ahayd oo ay gacantayada soo gasho ninkan ay u tageen Barcelona haysta waa duwalkii yaryar ee jizyada bixin jiray
وعبد الرحمن الناصر جسيدة سينشري ومن بعد هنا الحاجب المنصور با جسيدة كغادة شري نكي جسيدة بحين يبين انت وتقين بي وحيد هذين وحن ربنا يناد نلفرته وضنكي او ماشي نلقبته امير برشلونة وحيد واصفي عن لكن بالشروط شروط باندقانية شروط السبان دي كل الدولية وما حيبا لي شروطات والله ما نودس كسعونية لعيدا ما هيستاني وحيد عيد مدينية وحينا كلام مركا كهنستان أنا قد دجالكم أنتوا السعودة بيقولوا مالك استوى الدجال كاس السعودية بقول دينار وذهبية برا وبقرطية إلى هذا عشورة مالك استوى الدجالكم السعودية دولة برشلونة إلا سيا بقول دينار وذهبية كو عيدا ما ندنسينا يا عيدا كان ندنسيا أسكري كاستوى الدجال قلا وحربها هل دينار وذهبية إن مالنتي لا سيو أسكري كاستوى الدجال كقلا هل دينار وذهبية إنه هلا أفر waxaan rabaa buu leeyahay dagaalka markaynu gallo ama saddex dagaalka markaynu gallo hadii aynu jabinno khilaafadii naasi wixii hub la qabsado inaan anigu qaato dawladda Barcelona inay hub ka qaadato afar waxaan rabaa buu yiri madiinada Salim la yiraahdo oo ah mudankii uu furtay Cabdiraxmaan Naasir ama Cabdiraxmaan Thalith ninka la oran jiray dhulkii uu furtay ah magaaladaana in muslimiinta laga soo wareejiyo aniga gacanta la igaliyo afarta sharti hadda aqbalaysaan way idin la duulaya boqortooyada maalintiiba 100 giniya oo dahaba 100 diinaar oo dahaba askari kasto caynkaasiya waliba askarta wadankii wuxuu cilaamiyay in nimankii muslimiinta ah lagu duulayo wariyaha tatawucaya buu yidhi duulaya oo waliba lacag helayo maalin kasta hal gini baa la idin siinayaa dadkiiba askar bay soo qoreen waxa la yidhaahdaa anaga duulayna la meesha lacag baa ka furantay duulimaadkiiba intiiba uu ka aqbalay waxay yidhaahdeen intaaba waa kuu saxeexanay ee la duul intii markii loo saxeexay ayay la duuleen waxay jabiyeen markaasi Sulaymaan ibn al-Hakam iyo barbarkii la socday sidaasay Barcelona madiinadii Salim la oran jiray ku qabsatay wixii hub iyo qanaa'im la helayna qaateen ee muslimiinta laga furtay mahdina xukumkii uu ku qabsaday oo magaaladii Qurtuba uu dib ugu soo noqday muddo yar markii la joogay labadan inay soo wada duulay dawladdii hore isku dileen oo iyaga laftooda heshiis ma aha al-Fath al-Waadix baa makiida u dhigay oo mahdigiina isna uu ka takhalusay meeshii isaga isu dhigay laakiin dawla al-Aamiriya fikradeedii buu qaatay wuxuu yiri war kaliga mala lagu ogolaan maayo dawladnimadii nimanka amawiyiinta wax ka raadi المؤيد بالله هشام بن الحكم بن عبد الناصر كي غوريga ku xidhnaan jiray oo meel iska joogo soo helay markaas uu war khilaafadii baa soo dhiciya kaale mar dambu ki kameesha laga qabsanaya waa walaalkii waa Sulaymaan ibn al-Hakam هشام ibn al-Hakam buu soo ka haystay Fath al-Waadix dabeetana wuxuu yiraahdaa adigu noqo boqorkii meeshii buu iska fadhiistay kiina Sulaymaan ibn al-Hakam baa meeshii qabsaday waxaan leeyahay Fath al-Waadix ayaa meeshii qabsaday Sulaymaan ibn al-Hakimna waa leeriyay قالدك سبي برتيه سليمان بن الحكم سنوح بل ملك وقشتالة دبوا النقاء قال عني لا تقرأ دبوا اللافت وحوته جاي الفانسيه كتلين شري قشتالة برجي هرنا ساعدة مهدي جيل في محمد بن هشام بن عبد الجبار نكي ماشي كلا قاضي واحد يراهدن ماشي نلاقي قاد ده مرض مر ربنا ندلدوشو ساسميها بل صدح عشاء سوق بيري صدح عشاء هل يسوق صدح ذي عشاء وشوشيي أيو باركي قشتاله هيستي نبو صادري قال ذي كان انقلابتي بو تجي وننو دري وحولي هل كان وحي لا جوجا سليمان بن الحكم والربعين اللي سودوا له وحوجا أنا ده بلنقاضنا وانك هيا محن كجا هذا كرايين كويسين إنسان ضربتني أنا اللي سودوا لي وحلا يدي وحلا لي وحق العظم مسلمين تلاده وغير كوي الله قاضو هسودوا لي نما قاعد صار راعي
boqorkii qishtaale waxaanu filayn baa u soo baxay waxyaabihii la kala dooransiiyey waxaa ka mid ahaa markaa qalcadaha waqooyiga ku yaalla waaweyn ee xusuntii muslimiintu lahayd in isaga la siiyo duulimaadka ninkanna uu ka hadho wuu aqbalay markaas sulaymaan ibn alxakam duulimaadkiisii buu iska daayey isna wuxuu qaatay qalcaadkii waqooyiga ku yaallay muddadaasi kooban ee waxaasoo dhamma dhaceen aan ka warramaya waa 3 sannadood gudahood waa 400 ilaa 403 3 sannadood gudahood baa waxaasoo mashaakili dadka ku dhaceen sulaymaan ibn alxakamkii haddana barbarkii buu dib u kiciyey meeshii ma joogin waa soo noqdeen qurtabuu soo galay magaaladii buu fasahaadiyey kufsi dumar dad la laayo wax walba wuu sameeyey ninkii almustaciin billaahi la odhan jiray la baxay hishaam ibn alxakamkiina meeshii buu ka eriyey meeshiina dib buu qabsaday waxaasoo dagaali waxay dhex marayeen waa 2 nin oo walaala ah qolabana qolo eriyadiisii muddo aan badnayn ayaa fitankaasi soconayay waqti yar kadib ayay qoladii barbariyiinta ninkan waday baa waxay dhaaheen horta heedha maxaynu ninkan u wadnaa maynaba meesha qabsanno intaynu wadno ninkan umawiga ee sulaymaan ibn alxakamka maynu sulaymaan kaba ka takhallusno inagu qabsanno iyana meeshii bay ninkan ka qaadeen waxaaba qabsaday meeshii gebigeediiba nimankii barbariyiinta ahaa cali ibn xamuud nin la odhan jiray waa qurtabo qabsaday walaalkii qaasim ibn ishbiili u dhiibtay dabeetana meeshii bay qabsadeen caamiriyiintii oo almurtada billaah ninkii la odhan jiray la socdaa soo noqday dagaal badan baa dhacay kullu hada maxaanu tilmaamayaa waxaanu socdaa uun waxoogaa yar inaan tilmaamo dawaama ayay gashay dowladda islaamiga ee meesha joogtay marka ay taariikhdu maraysay 422 meelahaasi ee warkii loo adkaysan kari waayay maalinba meel mid qabsaday ee dhibtii tiro badatay ayaa qaadigii magaalada qurtuba loo yimi waxa la yidhi sida tan loo adkaysan maayo maxaa la yeelaa wadaadadii waa shireen dabeetana waxa la yidhi khilaafada baan ridna abulxasam ibnu jahwar qaadigii la odhan jiro nin cibaado badan cilmi badanna ahaa ayaa madax laga dhigtay waxaa la riday khilaafadii ama dowladdii meesha ka talinaysay markii burburkeedii tiro batay dabeetana waxaa la iclaamiyey majlisu shura majlis la yidhaahdaa inuu ka talinayo qurtuba magaalada loo yaqaano khilaafadiina inay dhacday dowladdii khilaafadii islaamiga ahayd ee andalus ka jirtay waxaa lagu kala diray shirkaasi uu qabtay abulxasam ibnuljahwar caalimkaasi la odhan jiray iyo culammadii la socotay waxaana la goostay in majlisu shura uu ka taliyo waddankii laakiin waddanku wuxuu iska noqday waddan dhibaato tiro badan ay ka jirto qabaa'il u kala googo'an waayo waddanka waxa deganaa dad caraba carabta deganee tirada badani gaar ahaan 2 qabiil bay u badnaayeen carab reer mudar ah oo ah carabtii xijaas ka timi iyo yeman iyo carabta qaysiyiinta loo yaqaano oo reer shaam ahaa waxaa kaloo joogay barbarka oo qabaa'il aad u tiro badana waxaa kaloo joogay qabaa'il ama dad loo yaqaano asaqaaliba saqaalibadu culamada taariikh dadkan ay saqaalibada ku sheegaan waxa weeyaan 3 qaybood baa loo qaybiyaa saqaalibada kuwa yidhaahdaan saqaalibada galbeedka oo waa boolandiyiinta iyo jeek iyo slovakiyiinta iyo kuwaasi kuwa loo yaqaano saqaalibati sharq oo ruusiya alkibaar iyo ukrainiyiinta ama ruusiya siqaar oo belarusiyiinta iyo wax la mida iyo saqaalibada junuubka oo ah yurubta koonfureed kuwa jooga dadkan intooda badani waxay ahaayeen dad waddanka jarmalku intuu duulo oo caruurtoodii wuxuuda soo qabqabsado iyo adoonnimo loo iibin jiray dabeetana mujtamac dhan sidii mamaaligtii atraakta ama masar oo kale qabsatay dad noocaasay noqdeen marka waa qabaa'il tiro badan oo iyaguna waddanka degan
markii ay dhacday in dawladdii khilaafada ahayd ay baabaado loo soo guuro majliskaasi shuurada ay culammadaas sameeyeen waxaa dhacday inaanay iyaguna xukumin magaalada intan ay magaalada joogaan mooyaane waddanka intiisa kale aanay xukum xooggan ku haynin sidaa daraaddeed waddankii wuu kala googo'ay waxaa soo baxay 22 dawladood oo cusub andalus meel yar bay ahayd andalus waxaa lagu tilmaamaa inay ilaa 600,000 meelahaasi in ku dhadhow 600,000 kilomitir isku wareega inay tahay يعني waddankii Soomaaliya 627 buu ahaa Soomaaliya in leeg rulahan marka la eego Soomaaliya oo 22 dawladood noqotay qiyaas reer waliba intii yareeyay oo haystay intuu goostay ayuu dawladda iclaansaday marka hore 7 qabiilo waaweyn bay u kala googeen banu Abaad niman la yiraahdo oo Ishbiiliya iyo agagaarkeeda qabsaday niman banu Ziri la yiraahdo oo Qarnaata iyo agagaarkeeda qabsaday banu Jahwar oo qaadigeenu ka warramaynay oo isagu Qurtuba iyo manaatiqda ku xeeran qabsaday bani al-Aftas niman la yiraahdo Berberiyiina oo iyaguna qabsaday Batlios magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhadhow bani Dhannuun nimanka la yiraahdo oo qabsaday Tulaytila Toledo magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhow bani Aamir nimanka la yiraahdo oo iyagu qabsaday Valencia ama Valencia meeshan la yiraahdo banu Hud oo yana qabsaday Sarqasta ama Saragoza magaalada la yiraahdo iyo inta u dhow waa Spain tan yar ee arkaysan ee Portugiiskan intan oo 22 dawladood loo qaybiyay Portugiiska iyo Spain oo la isku daray oo waliba qaybta sare oo dhan Lyon iyo maxaa la yiraahdaa Qishtaala iyo qaybtan Barcelona Aragon dawladii loo oran jiray intaasina dawlado kale Kristaan ay ka sameeyeen intii ka hooseysay ee muslimiintu haysteen ayaa waxa loo kala qaybiyay 22 dawladood taasi waxa soo baxday markaasi qabiil wal ama reer yaro waliba intuu meel qabsaday ayuu dawlad ku sheegay meel yaro kasto dawlad lagu sheegay waxa loo samaystay nin madaxweynaha oo amiirul mu'miniin sheegta magaalo waxa haystaa waana laqabka la yiraahdo amiirul mu'miniin buu haystaa ciidan buu leeyay wasiirru leeyay lacag buu daabacday gaar oo rasmigii madaxtooyadiisu ku yaalo safiirru leeyay uu dirto nin waliba dawlad wixii ay sheegan jirto dhan ayuu sheegtay dabeetana waxay noqdeen dawlado yar yar oo 22 oo 22 kuba ay col yihiin oo mid waliba walaalkiisa ugu dhow ee muslimka uu iska eegayo si uu walaalkiisa u dhow muslimka ugu xoogaystana dawladaha gaaleed ee markaas ka xoog waaweyn mid kamid ah uu dabada saaray ama se uu ku tiirsan yahay taasi waxay keensatay in gabayaagii la oran jiray al-Hasan ibn Rashid sidoo imaam Dhahabi siyarkiisa jiska 17aad safxada 144aad ku soo naqlinayo inuu gabayo yiraahdo mimma yuzahiduni fi ardi andalusa سماع معتصم فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد يعني قبياغا سي مسلم كابا وحلي وحيابها نغت جيب أندلس وحا كم دبولي دولك أندلس وحا نغت جيب مغرعيدا انترادا بدن لمعتصم معتضد المعتصم بالله المعتضم بالله المرتضي بالله المؤيد بالله مدوى لبا اللقب كيما دحتويد ولا هان جرتيب ولا بحي waxaan ka fogaaday waxa kamida buu yiri magacyada tirada badan leh ay nimankaas la bixeen wa alqabu mamlakatin fi ghayri mawdi'aha bulay wa magacyo dawladeed oo aan laakiin meel dawladi joogto loo bixinin kalhir yahki intifakhan sawlat al-asad بعض الروايات صورة الأسد بينها وسيدي بو يري ان على هذا عري جير كلي باح اسكا كعيه عري هدو جير اسكا كعيه دي اللي باح نقول ما يو وبسدي انت جير كاسكا كعسي جير اللي باح سويا كيسيسي بلا مدين يعني الدوله ده معها waxa bilaabmay waqtigan waxa taariikhda loogu yaqaano casru muluk الطوائف 422 ilaa 483 buu socday 422 ilaa 483 waa waqtiga ay la baxeen marka muluk الطوائف oo ah qaybaha aynu soo sheegnay ee 20ayada ku dhadhow waxay caan ku noqdeen
kow dad taraf jecel bay ahaayeenoo nimcaystay wadanaad u lacagaystay oo nimcaysta baa la googoostay dabeetana waxay noqdeen bay leeyihiin dad tumasho heeso bariis iyo baastiya wax la cuno laga shaqeeyo cuno laga waramo mujtamac nooca u koray bay noqdeen bay leeyihiin waa mar labaad waxay noqdeen mujtamac duwaylaad yar yar oo dawlad waliba colka ugu weyn ay leedahay uu yahay kan yar kale u jaarka reer hebela meesha yar ay haystaan waxa soo baxay bay yiraahdaan munkaraadkii oo dib u soo noqday iyo fusuuqii wixii la mid ah waxyaabaha aadka u foosho xun la soo korayna waxa ka mid noqday dawlad waliba si ay u jirto kuwan yar yar ka midi waxay dhabarka saartay dawlad ka mid ah dawladii gaalada ee roona ama iyaga ka xoog badnaa markaasi ayay mid waliba dhabarka saartay waxyaabaha ka sii foosho xun la meesha tan ka soo baxay waxa ka mid ah dawladaha yar yar intooda badani waxay bixin jireen jizya si ay u jiraan يعني waxa taariikhda ku daraasayn jirteen dawlad islaamiga jizya qaata kuwan iyaga jizya bixin jiray waxaana la siin jiray malik qishtaala iyo boqorada kale u dhow ayaa jizya ka qaadi jiray duwalkan yar yar sanad walba waa cashuurta ku soo dalaciya lacagta laga rabo inay soo diraan intii hore laga badinayo iyadoo la leeyahay waxa la ilaalinayaa nabadgelyadaada iyo dadkaaga iyo mujtamacaaga lagu ilaalinaya waxay soo baxeen boqorro yar yar markaa nin waliba meeshiisa sidii u xejisto un dawlad weyn oo gaaleedu ku tirsan iyadana intuu lacag siiyo uu yiraahdo kuwan kale ama magaalo iga qaad ama igu yaro durki ama aan kan magaalo ka soo qaato waxa la isku hayo dhamina waa magaalo aan kan riixdiyo magaalo kaas ay iga riixdo حد بيقعد ابن حزم الأندلسي عالم كي لورن شري ويراهضه ويراد اللادعة والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم نصارى إلى بلادهم وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه وأود ابن حزم ابن حزم باوحو قاعدين ويلاهضو إلهي بان كدارته هدي أيو قادان بيدو كون مدحض الشيغانية عبادة الصلبان كروس كاين يعبدان إن الرمود وقفضودان يانا أرنتو كوكالا سعونيسو ويسكا عبدا ينبيدي وضعنا مدحضا بيدو هدي ما انت الله يلاهضو كروس كعبدا الرميسو واكالا سهلانان يان آد بيو صمير ينبيدي ساسي درادات بي dadka muslimiinta xaramkoodii iyo dumarkoodii iyo abnaadoodii iyo raggoodiiba iyagoo maxaabiisa loo qaadaya buu dhulka gaaleed oo lagu xidhanaya magaalooyin dhan oo muslimiintu lahaayeen baa la siinaya buu leeyahay iyo qalcado dhan oo muslimiintu ay lahaayeen oo islaamka inta laga tirtiro naaqus laga dhaxtaagaya buu leeyahay ilaahay dhamaantood ha nacdalo oo seef suyuftiisa kamid ah Allah ku itixaamo buu ku gabagabeeyay waa wadaad cadhooday waxa ka muuqata يعني وحو dareemay sida ay wuxuu u jiraan duwalkan yar yar waxay ku caan baxeen runtii xaakim waliba inuu meel yar intuu qabsaday dawladnimo sheegtay dawladii Syrian aanay jiri karin ilaa iyo dawlad gaaleed oo kale dhabarka saaro mid waliba ninka ku xiga muslimka inuu cul leeyahay ka foge kale gaalkaan inuu lacag siinayo ama jisya uu bixinayo casriga caynkaasi Andalus dhibtaasi ay haysatay sida ay u kala daadatay waa casriga ugu culamo badnayd hadana taariikhda islaam marka dib loo daraaseeyo waa waqtigu ibn Abd al-Barr noola 463 kii buu dhintay casri tawaif dhexdiisu dhintay waa waqtigu noola Abul Walid al-Baji 447 kii buu geeriyooday waa waqtigu noola ibn Hazm 456 kii buu geeriyooday ووقتكم نولا ابن حيان أفربولي سجالي لحدن كيبو جريودي ووقتكم نولا ابن سيدي أفربولي شني سديتن كيبو جريودي وحو علماء دي وجبنا تاريخ ده يتلمامته عصر طوائف بين نولاين ملوك الطوائف وقتها كره يتلينيه بل الإمام أبو الوليد الباجي باجدا لون إسبانيا وباجا ومقالة يروكو تعالى برتغيسكا أبو الوليد الباجي عالم كان لورن شري مركو أركيد دول كان يريرا مسلمين تينيسي وكالدات تينيو دبعتها هيستا صدن سندود بودح سعودي يسقول مدوبة صدن سندود بالله هذا مقال كستو كتر سنة مميل كستو أندلس كمدا صعد بو كمري يسقول كل واقعي ضد كان مسلمين تيني مدوبان الله يسوي معده وكابن حزم
كتاب كيس نقط العروس لا هذا نقط العروس كتاب كيس لا هذا بوحيده فضيحة لم يقع في الدهر على مثلها حترتبوا فضيحة أن تاريخ ابن آدم كهرو سو شيغين بويدي 4 رجال في مسافة 3 أيام تسمى كل واحد منهم أمير المؤمنين بويدي أفرنين ومسافة 3 maalmood loo kala socdo mid waliba intuu meel yar ka dagay buu yiri oo sheegtay amiirul muuminiin inuu yahay muuminka oo dhan ba amiiru yahay afartan mid waliba muuminka oo dhan amiirnimadiisa sheeganaya 3 casho socodaba lagaga talaabay meeshay dagay ninka caadiga maalinta 40 kiiloomitir buu socdaa 3 casho waxa laga yaabaa 120 kiiloomitir in la socdo waa 120 kiiloomitir dhul ah oo afar amiirul muuminiin joogto oo nin waliba meel ka talinayo وخطب لهم بها في زمن واحد وأفر تبابو يدو وقت قرى خطبة جمع مد والبا أمير المؤمنين يهي لو دعين أيه وخطبة الله آخرنا يبولي مرقا سوح التلمام أفر تقوي كلا هاي مدوا خلف الحصر يبو إشبيليا على أنه هشام المؤيد واحد شرا هشام المؤيد كي وعلماء تاريخ الغيب كم إذا قبان وقت هرد انتي ayaa waadan baa nin qaadiyo meel haystay uun baa nin ku yiri waxaan arkayba Hishaam masaajid yar halka fadhiya dabeetana nin baa loo keenay war Hishaam kan yaa garanay inuu ninkan Hishaam ilmaayahay mid la yiri shaqaalihiisa baa la raadiyo waaba isagii baa la yiri dib baa loo magacaabay isagoo boqorkii almuayid billah bari horana taariikhda qoraysa inuu dhintay markaas wuxuu leeyahay Khalif al-Husari baa ninkan la oran jiray oo isagoo magacii ninkii dhintay sitaba boqornimo loogu khudbadaynayay kalabaadna waxa uu Muhammad ibn Qasim ibn Hamoud وجزيرة الخضراء ماشى الله يداده مركز الله صاق قلبا أندلس حقه هوسة طنجة هي مركز الله صاق قلبا قوبت كواد الله يمادا الجزيرة الخضراء ما الله يغنه محمد بن إدريس ويسجن مالقة مقالة الله يداده لو خد بديني يا إدريس بن يحيى أو شنترين مقالة الله يداده يعني وحط المام يا ابن حزم إن عيب طهيان لا قبل كرين إن أفر مجان بغلي 20 كيلومتر هي شان أفر أمير المؤمنين كصباحان وحجار وقتي أندلس تاريخ ده دورنتي مع 6 بدن إلى هذا ووقت مرر بدن أتصرن سو آخر هذا مكور كده ودي بدنيه وهي مركز منقشه طليطلة دعيتان كيدي وكله طليطلة وعاصمة دي برجي هور إسبين لو قلت لين شري المسلمين تمركي فرتين عاصمة القوط بركي هور هانشرتي الثغر الشمالي بين علماء التاريخ تكت المامان ان ملك الفانسو السادس مركو قبسنا يي نمان كلام مسلمين كل الدولي وعدو المسلمين ولا قبسنا يي ونمان كلام مسلمين كل الدوليان عدة قبسنا سنة ويهي ان ملك قشتالة تاريخ الإسلامي هور اللي ما أركي شري إن مسلمة وكسر دوله كوحك الله مسلمة ووحى الله قبنا يا هنين قال دينه قفصده ماشة بل ملك قشتالة أنتو كبري مركزي والفانسو صادس يسقوا واجي هره أبيه مركو بقرطوية ذكر أنت صدق نينو ولا لا بكو قفصدين مد بعد بتنا اللي بدي كلام سؤال يده ماشي كقاضي الفانسان يسقوا قحونتيه بطليطلة يمي طليطلة وشوق شري بقرك طليطلة سود ويا مالها نردم بتصي وحيادا مركو صايع والنقطة يا ولا الكيد أنتي مركو ولا الكيد أنت بقرطوية دي سقى ديب لوسية نيجي هالكن قحونتيه كوا هان شري ديب لود دري ماشي تجي ماشي بدي بقول سود ولا مركو ماشي قفص الفانسان هن المدو أفريقيا شوق كلا سيسويان ماشي وقحونتيga ka aha ee uu shalayto qaxoontiga ku aha ayuu dib uga soo duulay markii uu la saaray meeshii dib loo saaray wuxuu gaarsiiyay markaasi xad uu gaarsiiyo in jisyada markuu ka qaado yani culimada taariikhda ay maasida markay ka waramayaan maasida qaar kood yani culimada taariikhda kamid waxay warinayaan inuu soo diray nin kamid ahaa boqor wasiiradiisii oo yiri lacagtan la isiinayo jisyada si fiican u soo baad lacagtu de waxay ahaan jirtay dahab iyo fida marka lacagta laga qaadanayo nimankan naaqidiinta ah ee baa jira waxaan eega inuu real yahay iyo waxde macdan aan real ahayn inay tahay marka lacagtii markii laga ururiyay wixii
almuctamid billah kii la odhan jiray meeshiisa markii la joogay ayuu wuxuu ku yidhi boqorkii arrin kaluu isoo faray waa boqorkii yaraa qashtaala haystay waa maxay buu yidhi arrinta kale uu soo faray boqorkii wuxuu yidhi waxaa gabadhaydii baa umulaysa dabeetana nimankii qisiisiinta ahaa wadaadadii baan la tashaday tale waxaa la ii sheegay in loo baahan yahay si aan muslimiinta uga xoog bato oo aan ugu wada qabsan karo in islaantaydu ay ku umusho masaajidka qurtuba waa codsi uu soo qortay maliku qashtaala boqorkii almuctamid billah ishbiliya ka talin jiray ayuu wuxuu leeyahay qurtuba isku haystay buu wuxuu leeyahay waxaa loo baahan yahay boqorka habartiisii baa umulayse inay ku dhasho مسجد قسطالة مسجد قرطبة ساعتك وين قرطبة يعني واحد تنكين يا واحد ويان ومركو الدرامي دتك كرينا دت كلا لومي oo liita oo midba ka ku xigay iska eegayo oo midna aanu kaligii markaa iska celin karin ama aanu wax iska rabi karin uu yahay uu ka qabsaday magaaladii Tulayt la odhan jiray ayaa codsigiisu xadka kan gaadhay taasi waxay sababtay inuu waxoogaa naqwa qaado ninkii safiirkiiba uu dilo loo soo diray oo dabeetana rabshada ay dhacdo oo ninkii duulimaad soo qaado oo mashaakil tiro badan ay u dhaco ilaa xad markii dambe boqorradii yaryar ay isu yimaadeen oo yidhaahdeen war maxaynu samaynaa waddankiina difaaci kari mayno markaasay yidhaahdeen aanu nasriga aan soo waaridno war aan caalamul islaami dib u eegno shimaali afrika ama shimaali afriqiya north africa dowlad cusub ka dhalatay oo dowlad almuraabitiin la odhan jiray oo markaasi uu ka taliyay nin salafi ah oo la odhan jiray Abdullah ibn Tashfin Yusuf ibn Tashfin la yiraahdo uu ka taliyo waa oday 80 jir ah oo faraska fuushan hadana dowladii ninkaas ka talinayay bay u dirteen caawimo inuu soo siiyo dabeetana hadana iyagii baa dhexdoodii shakiyay waxay yiraahdeen hadduu inaga ka ciyaar muu ina qabsadaadee diiba uu ninkan inaga riixaar muu isagu meesha qabsadaa maalintaasi waxay ku tilmaamaan almuctamid billah ابن عباد كاسي قوانا ضقبوا مالتها قاتوا وحكوا والله لا نرعى إن نقيل كل راعو صحارها أي هاي دا انتبهوا لنا الخنزير راعو يعني إنه نكاس ماشي بس وقبصده وقال يدر طبعا كالدور بضيا إن قشتاله انتو يقبصده خنازير اللي راعيه بوليه هاي دبتنا waxay qaateen go'aanka in muraabitiin loo yeedho Yusuf ibn Tashfin iyo ciidamadiisii baa yimi waqacda caanka ee zallaaqa loo yaqaan ayaa dhacday waa waqacad taariikhda aad ugu caana dibna loo jabiyay qashtaale iyo nimankii ka talinayay markaasi dib loo jabiyay isaga darka ku baxsaday ciidamadiisa dhamaantood meesha ku jabeen qisaska taariikhiga ee masaa'ilkan ku saabsan mar rabo inaan balbalaadhiyo laakiin waxa aan rabaa inaan tilmaamo mujtamacu markuu dhexdiisa isagu uu isnaco dabeetana uu noqday yaa kursiga ku fadhiya kadibna tuulo waliba madaxweynaha ay samaysato waxa iska ilaalinaysaa ay tahay tuulada kale ku xigta isaguna uu waayo waligiiba magac dawladda sheegto lacag ka samaysto wax yar ha qorqoro laakiin uu waayo muqawamaat alxayaa qaabkii loo noolaan lahaa uu waayo oo noqdo waxaan isdifaaci karin ama waxba iska celin karin waxay noqonaysaa inuu taxta saytarati dawlatin ukhra dawlad kale inuu iyada ku hoos noolaado oo wixii loo yeeriye kasta uu aqbalo si ay tiisan yari u jirto 22 dawladood baa muddadaas yar meeshan ka talinayay oo midba ka ku xiga uu iska ilaalinayay oo dawladan kale ee meesha taala uu rabay inuu haddana nimanka waxa sameynaya dhan kale faqri ma hayn xolalaani ma jirin waa waqtiyadii ay ugu badnaayeen waa waqtiga yawmutiin ay dhici doonto وتاريخ طوام قشاني يوم الطين كلا شيء نبغى رضا كم إذا أي إسلامتي سي بورتوية ده حاجة صرف وشيء تبتني يدور ربد أي بي وحي عرفتي تضوض اللغين أيه والضمرة أو حاجة حرابة أنت كير فيتين ضربة نحصعده كاسا وحي تري بغر أنا قلنا واحد دوني أنا ضربة صايرة بطلق صدا تبتدأ قف بني آدم كوحة عادية انت كم قانون بني ادم كمودا inay tahay nimcada rasmiga imka ninka baadiyaha jooga ee aan waxba haysanin talow daaraha dhaadheer mar uu yaa fuula buu isleeyay
kan daaraha dhaadheer fuushanina yaa buraha marun kora buu isleeyo soo carcarara bannaankaasi oo hiita yar buu dhisanaya waa nolosha bini'aadamka caadiga ah yacni qofba inta uu haysta mooyaane inta kaluu raadceeya uu arkaa inay raaxa tahay oo inuu soo sameeyey waxaas islaantan boqorku qabo 800 hablood baa la yidhahdaa dad ku dhadhow baa shaqaalaheeda ahaa u shaqaynayaan waxay jeclaatay inay dabadda u baxdo dhoobadaasi ay soo yara batalaqsato ay soo socoto dabeetana wuxuu yidhi boqorkii waad batalaqsanaysaa wuxuu amray tiinatul muluuk in loo sameeyo dhoobo boqortooyaha loo sameeyo buu yidhi waxa la soo gaday wadanka wixii miski iyo cambar iyo wax la isku udgoonayo dhan yaalay dabeetana hal la cajiimaa la yidhi wixii baa la isku cajiimay meel bannaana loogu sameeyey aagaamo yaryarna waa loo soo iibiyey xambaarato dabeetana waxaa la yidhi halkaasi ku batalaqso waxay ku batalaqsatay markaa dhoobo laga sameeyey miski iyo cambar iyo waxa waa kuwa culimada taariikhdu sheegaan inay bari bay islaantiis qabteen markaasay tiri wallahi ma raaytu minka khayran qatu waligay wanaag kaama arag nama maalintii dhoobadana buu yidhi xataa yowmutiin ayuu tilmaamay baa la yidhaahdaa ibnu cabbaadkani weliba wuxuu ahaa nin gabayaaya aad u gabay badan buu ahaa walidaalik akhiiran horta xabsu ku dhintay isagu dowlad muraabitiin baa qabatay oo la xidhay magaalo yaroo Morocco ku taala ayaa lagu xidhay magaaladaasuu ku dhintay nin aad u gabay badan buu ahaa gabayadiisa cajiibka waxa ka mid ah maalin ciideed isagii markii la xidhay reerkii la masaafuriyay meeshii dawladda kale ka dhaceen oo qabsadeen ayaa waxa ku dhacday maalin ciideed buu arkay caruurtiisii hablihii uu dhalay oo kabala oo caguhu dildilaaceen oo islaantiisuna islaan gabayda bay ahayd oo adiibada oo macruuf la yaqaano islaantan uu yoomuteeka ku taamayay oo islaantiina iyana reerahay maryaha u toshaa qortooyadii iyo nimadii waxa ka dambeysay qaxoontinimadaasi isla uu xabis ku jiro islaantanina ay reeraha u tosho marada ay u tosho maalintii dambe caruurtiisa u timo gabay aad u macruuf u tirinayay oo marka dambana uu ka gabayayo cagaha hablihiisa buu ka gabayaya uu leeyahay waxaad moodaa maalinna inaanay qoladii dhoobadii ku socotay yani maalinna inay qoladii miskiga taabatay ahayn baad moodaa gabay aad u tirinaya aad runtii gabay calaacal badana oo uu odhanayo yani ninka iga dambeeyo adduun yani farxad male waxba waxaad haysato isku dhoobadiiba waxaanu ka joognaa buu leeyahay kabalaantaas gabay aad u tirinaya waxaan uga jeedaa mayla ayn dhaqaale lama la'ayn ama dad aan hanti haysan ma ahayn dad dacfi kale ka jira ma ahayn laakiin waxa ugu badan ee meesha tan ka jiray wuxuu ahaa khilaafkaasi mujtamaca soo dhex galay iyo kuraasidaas yaryar la isku qabsaday iyo mabaadi'dii kulliga ahaa ee la haystay oo la ilaabay oo loo noqday markaasi in dawladaha kale dhabarka la saaro oo la isku dayo taariikhda andalus meelo qurux badan iyo meelo liidataba way leedahay meelaha kan laakiin aan ka warramayo ogaan baan u doortay waayo horaan waxaynu soo nidhi taariikhdu waa beejaj maalinba bog la rogo la akhriyo bog kasta aad joogto waxaad arkaysaa bog hore taariikheed oo la mid yahay dad maanta arkayso duwal yaryar oo tiro badan oo muslimiina 200,000 iyo 500,000 inta meel fadhiistay yiri dawlad baanu nahay